maanta taariikhdu ma xusayso nin boqor ah, mana xusayso nin gabyaa ah, ee waxaynu baadka ka rogi doonnaa boogga taariikhda si aynu u baranno wiil dhallinyaro ahaa oo magaalada Maka oo dhan ay ku dayan jirtay xaragadiisa. Wiil ay gabdhaha Quraysh oo dhammi ay ku hamin jireen inay guursadaan. Waxa uu ahaa wiilkii ugu udgoonaa, ugu lebiska wanaagsanaa, uguna nolosha raaxada badnaa guud ahaan jasiiradda Carabta. Laakiin ninkani wuu isbedelay, wuxuuna noqday nin gashaandhar duugoobay, maqaarkiisa wuu qalalay, cagihiisiina way dilaaceen. Haddana marka uu dhintay, rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa ilmeeyey, isagoo dhahaya, Muscabow, waxaan kugu arki jiray magaalada Maka iyadoo aysan jirin qof adiga kaa nimco badan. Maantana timahaagii way isku wada dhegeen, dharkaagiina waa go' keliya. Haddaba waa kuma geesigan? Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Muscab bin Cumayr, safiirkii ugu horreeyey ee Islaamka iyo ninkii sababta u ahaa in Madiine ay noqoto hoyga Islaamka. Intaana muuqaalka sii gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe sar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe oo na sii shargare. Si aan u fahanno qiimaha Muscab, waa inaan marka hore fahannaa noloshiisii hore. Muscab waxa uu ka dhashay qoyska reer Bani Cabdidaar oo ahaa qoys hodan ah oo Quraysh ka tirsan. Hooyadiis Qunaas bintu Maalik waxay ahayd haweeney aad taajir u ah oo dabeecad adag oo si xad dhaafana u jecel wiilkeeda Muscab. Taariikhdu waxay noo sheegaysaa in Muscab uu ahaa wiilka loogu kalkoolinta badan yahay magaalada Maka. Waxa uu xiran jiray kabaha ugu qaalisan ee laga keenay Yaman. Dharkiisa waxaa laga keeni jiray Shaam. Waxaa kaloo la sheegaa inuu marsan jiray barfuun gaar ah oo qaali ah, kaasoo marka uu waddada marayo dadka ay urta ku garan jireen in Muscab uu halkaa marayo. Saxaabada qaar waxay dhaheen, ma aanan arag qof ka qurux badan, kana dhar wanaagsan, kana nimcad badan Muscab bin Cumayr xilligii jaahiliyada. Waxa uu ahaa xiddiga dhallinyarada Quraysh. Golayaasha waaweyn ayaa lagaga sheekaysan jiray, waana lagu faani jiray, iyadoo Maka ay ku jirto xilligii mugdiga ahaa oo sanamyada ay caabudi jireen. Waxaa bilowday hadalhayn cusub, waxaana soo baxay nin la yidhaahdo Maxamedul Amiin oo sheeganaya inuu yahay nin Alla soo diray. Muscab waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo aqli badan, wuxuuna maqlay in nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtiisa ay si dhuumaalaysiya ugu kulmayaan guriga Arqam binu Abi Arqam. Xiise ayaa galay, habeennada ka mid ah wuu dhuuntay, wuxuuna tegey gurigii. Markii uu guriga galay, waxa uu arkay rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo akhrinaya aayado Qur'aan ah. Qur'aankaasi waxa uu si toosa u taabtay qalbigii Muscab, isla goobtii ayuuna ku islaamay. Laakiin waxaa hortaallay caqabad weyn. Caqabadaasina waxay ahayd hooyadiis. Muscab waxa uu ogaa in haddii hooyadii ay ogaato ay kala noqon doonto dhammaan raaxada uu haysto, dhibaato badanna ay gaarsiin doonto. Sidaas darteed iimaankiisii wuu qarsaday. Maalmo badan waxa uu ahaa mid qarsoodi ku cibaadaysta, ilaa maalin maalmaha ka mid ah uu ka arkay nin lagu magacaabo Cusmaan binu Dalxa. Cusmaan waxa uu si degdeg ah ugu waramay hooyadii Muscab. Markii hooyadiis ay ogaatay, waxay ahayd naxdin weyn. Hooyadiisii aadka u jecleed markan waxay isku beddeshay cadowgiisa ugu weyn, waxayna isku dayday inay garaacdo. Laakiin jacaylkay u qabta dartiis waxay go'aansatay inay xabsi geliso. Waxayna ku xirtay qol mugdi ah, iyadoona u diiday cunnada iyo cabitaanka si uu uga laabto diintan cusub. Laakiin Muscabkii shar raaxada ku noolaa maanta waxa uu helay raaxo ka weyntii hore, waana raaxada iimaanka. Wuu dhabar adeegay ilaa markii dambe uu ka baxsaday xabsigii, wuxuuna ku biiray kooxdii u hijroonaysay dhulka Xabashida. Markii uu Xabashida ka soo laabtay, xaaladdiisii way isbeddeshay. Dharkiisii qaaliga ahaa wuu dhammaaday, jirkiisii jilicsanaana wuu qalalay. Hooyadii markay aragtay sida uu u rafaadsan yahay, way ka quusatay. Waxayna ku tiri, tag oo waxaad tahay mid aanan dhalin, hantidiidana waxba kuma lihid. Laakiin Muscab waxa uu ugu jawaabay hadal taariikhi ah, wuxuuna ku yidhi, hooyo waan kuu nasteexaynayaa, ee qira inuusan jirin alle xaq lagu caabudo alle mooyaane. Markaasay dhaaratay, waxayna ku dhaaratay inaysan abid diintiisa qaadan doonin. Halkan ayay ka bilaabanaysaa
hawshii ugu weyneed ee Muscab. Heshiiskii Caqaba ee koowaad kadib, dadkii reer Madiina waxay nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee ay ka codsadeen macallin diinta bara. Rasuulkana ma dooran Cumar, mana dooran Abubakar, ee waxa uu doortay Muscab bin Cumayr. Muscab waxa uu ahaa diblomaasi oo aqoon sare u leh Qur'aanka Kariimka ah, wuxuuna tegey magaalada Madiina, waxaana martigeliyey Ascad bin Zuraara. Maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo Muscab uu dadka wax u sheegayo, waxa u yimid Usayd bin Xudayr oo ahaa oday dhaqameed, isagoo waran sitaa, wuxuuna ku yidhi, maxaad dhulkan keentay? Ma waxaad rabtaa in dadka aqliga yar aad fasahaadiso? Muscab oo ahaa nin aan baqin, laguna yaqaanay xigmad, ayaa yidhi, walaal ma fadhiisatid oo ma dhegaysatid? Haddii aad raalli ku noqoto, waad qaadan, haddii kalena waan joojinayaa. Usayd wuu fadhiistay, Muscabna waxa uu bilaabay inuu Qur'aankii akhriyo. Isla markiiba wejigii Usayd wuu iftiimay, wuxuuna qaatay diinta suuban ee Islaamka. Kadibna waxaa yimid Sacad bin Mucaad, hogaamiyihii reer Aws. Isla markiiba diintii ayuu qaatay xigmadda Muscab dartiis. Maalintaasi guri kasta oo Madiina ku yaal waxaa galay iftiinka Islaamka. Wakhtiga wuu socday, hijradiina way dhacday, dagaalkii Badarna waa lagu guulaystay, waxaana la gaaray dagaalkii Uxud. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa calanka ciidanka u dhiibay Muscab bin Cumayr. Dagaalka markii uu qaraaraaday ee ciidankii muslimiinta la jabiyey, Muscab waxa uu istaagay difaac, wuxuuna ogaa in haddii calanka uu dhaco, niyadda ciidanka ay jabayso. Waxa kale uu ogaa inuu u egyahay nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Sidaas darteed waxa uu go'aansaday in cadowga isaga uu soo jeediyo si nebiga loo badbaadiyo. Nin gaala oo la odhan jiray Ibnu Qami'a ayaa soo weeraray, gacanta midig ayuu ka jaray Muscab. Muscab calankii bidixda ayuu ku qabsaday, isagoo leh, wamaa Muxammadun ilaa rasuul. Gacantii bidixna waa laga jaray. Labadii cududood ayuu calankii laabta ku geliyey si uusan u dhicin. Ugu dambayntiina waran ayaa wadnaha looga dhuftay, wuuna dhacay geesigii Islaamka, wuuna shahiiday. Markii dagaalkii uu istaagay, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu soo dhex maray shuhadada, wuxuuna dul istaagay meydka Muscab, wiilkii maka ugu xaragada badnaa. Maanta waxa uu yeelaa ciidda dhexdeeda. Waxa uu xidhnaa go' yar oo duug ah. Saxaabada ayaa isku dayayey inay kafanaan. Marka ay madaxa u dadaan, lugaha ayaa qaawanaa. Marka ay lugaha u dadaanna, madaxa ayaa qaawanaa. Ugu dambayntiina, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, madaxa u dada, lugahana cawska ugu astura. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa ilmeeyey, isagoo xasuusanaya nimcadii Muscab uu ku jiri jiray iyo sida uu Alla dartiis uga soo tegey. Wuxuuna ku dul akhriyey aayadda dhahaysa, mu'miniinta waxaa ku jira rag ka dhabeeyey ballankii ay Alla la galeen. Muscab waxa uu inoo dhigay cashar ah in adduunyada ay tahay mid dhammaanaysa. Wuxuu iibsaday aakhirada, wuxuuna iska iibiyey adduunyada. Muscab waxa uu ina baray in diinta loo huro wax walba, in dhallinyaronimada laga faa'iidaysto, iyo in dacwada ay u baahan tahay xigmad iyo dulqaad. Taasina waxay ahayd qisadii Muscab bin Cumayr, safiirkii Islaamka. Adduunyadu waxay taqaannaa codad badan, codad amra, codad heesa, iyo codad ooya. Laakiin taariikhda aadanaha ma jiro cod ka saamayn badan, kana sharaf badan codka ninkan. Waxa uu ahaa nin bulshadiisa ay u arkayaan waxaan jirin. Midabkiisa waxa uu ahaa mid madow, timihiisana waxay ahaayeen kuwo adag, asalkiisana waa Xabashi. Marka la joogo suuqyada Maka, waxa uu ahaa badeeco la iibsado, lana iibiyo. Ma lahayn qabiil difaaca, mana lahayn hanti uu ku faano. Laakiin ninkani wuxuu noqday ninka keliya ee isagoo dhulka socda, uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu ka maqlay shanqarta kabihiisa jannada dhexdeeda. Waana ninkii ugu horreeyey ee fuulay dusha sare ee Kacbada si uu u cilaamiyo weynida Alle. Waa macallinka dulqaadka, waa astaanta xorriyadda, waana Bilaal bin Rabaax. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Bilaal ibn Rabaax. Intaana muuqaalka sii gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe sa channelka,
haddii aad hore noogu xirnaynaa muuqaalka leegdhe oo na sii sheelgare. Bilaal waxa uu ku dhashay magaalada Maka qiyaastii 43 sano ka hor hijrada. Hooyadii waxaa la odhan jiray Xamaama, waxayna ahayd addoon. Sida sharciga Carabtu wakhtigaasi ahaa, haddii ay hooyadu addoon tahay, wiilkeedana waxa uu noqonayaa isaguna addoon kale. Bilaal waxa uu ku soo koray guri ay ka buuxaan nacayb iyo kibir. Waxa uu addoon u ahaa mid ka mid a raggii ugu xumaa reer Quraysh, kaasoo magaciisa uu ahaa Umaya binu Khalaf. Umaya waxa uu ahaa nin aad u kibir badan oo addoomaha u arki jiray sida xayawaanka oo kale. Bal qiyaas nolol aad maalintii oo dhan aad shaqaynayso, habeenkiina aad seexanayso adigoo baahan, waxa keliya aad maqlaysana ay tahay aflagaado loo geysanayo midabkaaga iyo asalkaaga. Carabtu waxay Bilaal ugu yeeri jireen Ibnu Sawda, wiilkii naagta madow. Laakiin Bilaal waxa uu lahaa qalbi nadiif ah iyo caqli fayow. Wuxuuna arki jiray sanamyada ay caabudayaan, wuxuuna isweydiin jiray oo uu isdhihi jiray, dhagaxan aan gacantayda ku qoray sidee buu ii abuuray. Bilaal isagoo xoolaha u raacaya sayidkiisa, waxa uu maqlay hadalhaynta cusub ee Maka ka socotay. Wuxuuna maqlay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu dadka ugu yeerayo diin cusub. Diintaasina waxay leedahay dadku way siman yihiin sidii ilkaha shanlada oo kale. Carabka kama fadli badna cajamka, kan madowna kama fadli badna kan cad. Dadkana ma kala sareeyaan ilaa xagga taqwada mooyaane. Ereyadani waxay ahaayeen kuwo si toosa u taabtay boogtii ku taallay qalbigii Bilaal. Waana markii ugu horeysay ee uu maqlo inuu qiimo leeyahay. Wuxuuna si dhuumaalaysiya u aaday nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, wuxuuna qaatay diinta Islaamka. Muddo ayuu iimaankiisa qarsanayay, laakiin siri ma qarsoonto. Maalin maalmaha ka mid ah, Umaya ibnu Khalaf ayaa ogaaday in addoonkiisii uu raacay diintii Maxamed. Halkaasna waxaa ka bilowday mid ka mid ah imtixaankii ugu darnaa ee taariikhda bini'aadamka. Halkan aan wax yar istaagno. Waa duhur. Qoraxda magaalada Maka waxay taagan tahay bartamaha cirka. Ciiddiina waxay u kululaatay sida dabka oo kale. Umayana waxa uu amray in Bilaal la jiifiyo ciiddaas gubanaysa. Intaasi kumuusan ekaan, waxa uu amray in dhagax weyn oo ay qaadayaan dhowr nin la saaro laabta Bilaal. Neefta ayaa dhib ku noqotay, hilibkii dhabarkiisana ciiddii ayaa gubtay. Umaya waxa uu ku qaylinayay, Bilaalow, diinta Maxamed ka laabo oo caabud Laata iyo Cuzza, haddii kale dhagaxan ayaad ku hoos dhimanaysaa. Laakiin Bilaal oo xanuunkii la ildaran, afkiisana uu qalalay, waxa uu ku jawaabay 2 erey oo keliya. Wuxuuna yidhi, Axadun axad, axadun axad. Waa Alle keliya, waa Alle keliya. Xitaa waxa uu diiday inuu dhaho hal erey oo ku raaligelinayo. Markii dambe, Umaya waxa uu carruurta ku amray in Bilaal ay luqunta xarig u geliyaan oo ayna ku jiidaan waddooyinka Maka. Dhiig ayaa ka socday jidhkiisa oo dhanna waa uu dildilaacay, laakiin carabkiisa waxa uu ku celcelinayay axadun axad. Haddaba maxaa Bilaal ku kalifay inuu u adkaysto xanuunkan oo dhan? Waxa uu dhihi karay, waan ka laabtay, isagoo afka ka dhahaya, qalbigana ka aaminsan si uu u badbaado. Laakiin Bilaal waxa uu rabay inuu jabiyo kibirka Umaya. Wuxuuna rabay in uu tuso in jidhka la addoonsan karo, laakiin qalbiga uusan cidina addoonsan karin Alle mooyaane. Maalin maalmaha ka mid ah, Abuubakar al-Sidiiq, Allaha ka raalli noqdee, ayaa soo maray goobtii lagu ciqaabayay Bilaal. Wuxuuna u adkaysan waayey aragtidaas. Wuxuuna Umaya ku yidhi, war Alle kama baqaysid miya? Maxay tahay miskiinkan aad dilayso? Umaya oo ka caajisay garaacitaanka Bilaal oo rabana inuu ka takhaluso, ayaa yidhi, adigaa fasahaadiyey ee iibso. Abuubakarna waxa uu bixiyey lacag aad u badan. Lacagtaasina qiyaastii waxay ahayd 9 waqiyadood oo dahab ah, oo ahayd lacag lagu iibsan karo 7 addoon oo kale si uu u xoreeyo Bilaal ibn Rabaax. Ayuuna u bixiyey lacagtaasi. Maalintaas, Bilaal waxa uu noqday nin xor ah, gacmihiisii silsiladda ku xirnaana waa laga furay. Wuxuuna toos u aaday nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, isagoo dareemaya inuu dib u dhashay. Hijradii kadib, markii Madiine la tegey, muslimiintii waxay u baahdeen astaan ay isugu yeeraan salaadda
qaar waxay soo jeediyeen gambaleelka kiristanka, qaarna waxay soo jeediyeen buunka yuhuudda. laakiin alla waxa uu riyo ku tusay saxaabi la odhan jiray cabdulaahi binu zayd ereyga aadaanka. nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee markii loo sheegay riyada waxa uu ku yidhi, u tag bilaal oo bar ereyada, waayo isaga ayaa kaa cod dheer kaana cod macaan. waa subax hore, madiino way deggan tahay. bilaalna waxa uu fuulay meel sare oo u dhow masjidka. waxa uu gacmaha saaray dhegihiisa, wuxuuna qaatay neef dheer. kadibna waxa uu ku dhawaaqay, allaahu akbar, allaahu akbar. codkaasi waxa uu galay guri kasta oo madiine ku yaal. dadkii ayaa soo cararay iyagoo leh, waa maxay codka ruuxiga ah? waana markii ugu horraysay ee taariikhda islaamka oo ay takbiirta cidhka isku shareerto. addoonkii shalay dhulka lagu jiidayey maanta waa codka mideeya ummadda islaamka. 2 sano kadib waxaa dhacay dagaalkii weynaa ee beder, waana maalintii la kala baxayey qadarka alleh. bilaal waxa uu foolka fool u arkay ninkii shalay ciqaabi jiray ee umaya binu qalaf. markii uu arkay, bilaal waxa uu xasuustay xanuunkii dhagaxa. waa daqiiqad taariikhiya, addoonkii hore oo haysta seef iyo sayidkii hore oo gariiraya. maalintaasi umaya waxa uu ku dhintay gacanta muslimiinta, waxaana meesha ku dhammaaday kibirkii quraysh. bilaalna waxa uu arkay ballanqaadkii alleh oo rumoobay, iyo in cisadu ay u sugan tahay alle iyo rasuulkiisa. sannadkii 8aad ee hijrada, muslimiintii waxay dib ugu soo laabteen magaalada maka iyagoo guulaystay. ma jiro dhiig daatay, mana jiro argoosi. laakiin nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu bilaal faray amar astaan weyn leh. wuxuuna ku yidhi, bilaalow, fuul kacbada dusheeda oo aadaanka ku dhawaaq. bal qiyaas muuqaalkan, bilaal oo cagaha saaraya dusha sare ee kacbada, gurigii ay shalay quraysh u diidi jireen inuu xitaa soo ag istaago, iyo quraysh oo hoos taagan oo fiirinaya ninkii shalay ay dhagaxa saareen oo maanta dushooda kaga dhawaaqaya aadaanka. qaar ka mida gaaladii waxay dhaheen, nasiib ayuu lahaa aabbahay oo dhintay ka hor inta uusan arkin tukahan oo kacbada koraya. laakiin alla waxa uu maalintaas soo dejiyey aayadda dhahaysa, kan idinku sharafta badan alla agtiisa waa kan idinkugu taqwada badan. markii uu geeriyooday, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, madiine waxay noqotay mugdi. bilaalna waxa uu isku dayey inuu aadaamo wakhtiga salaadda, wuxuuna gaaray ashhadu anna muxammadan rasuulullah, laakiin wuu dhammaystiri waayey. oohin ayaa ceejisay, codkiisiina wuu dhumay. bilaal waxa uu u tegey khaliifkii koowaad ee abuubakar, wuxuuna ku yidhi, yaa amiiruulmu'miniin, waxa aan maqlay rasuulka oo leh camalka ugu fiican waa jihaadka, waxaana rabaa inaan shaam aado. abuubakarna waxa uu ku yidhi, bilaalow, yaa noo aadaamaya? bilaalna waxa uu ku yidhi, abuubakarow, ma waxaad ii iibisay naftaada mise alle? haddii alle dartiis aad ii iibisay, idaa oo aan tago, waayo ma awoodo inaan madiine sii joogo rasuulka la'aantiis. bilaal waxa uu ka tegey magaalada madiina, wuxuuna aaday magaalada shaam. codkii madiinana wuu aamusay. sannado badan kadib, bilaal oo da' ayaa riyooday, wuxuuna riyo ku arkay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ku leh, bilaalow, waa maxay fogaanshahani? miyaanan la gaadhin wakhtigii aadna soo booqan lahayd? bilaal waxa uu ka soo kacay hurdada isagoo ooyaya oona dhahaya, waan fogaaday yaa rasuulallah, waan fogaaday. isla habeenkiiba waxa uu u diyaargaroobay safar dheer oo madiine ah. markii uu soo galay magaalada madiina, dadku way garan waayeen, timihiisii way ciroobeen, dharkiisiina wuu duugoobay. wuxuuna tegey qabrigii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, dushiisa ayuu ku ooyey ilaa uu ka miir daboolmay. waxaa u yimid xasan iyo xuseen, wiilashii cali iyo faaduma. wuu isku duubay, wuxuuna ku yidhi, waxaan idinka urinayaa caraftii awowgiin. waxay ku dhaheen, adeer, waxaan rabnaa inaad noogu eedaanto sidii aad awowgeen ugu eedaami jirtay. bilaal wuu diiday markii hore, laakiin markii ay ku adkeeyeen, uu ka aqbalay. subaxaas, bilaal waxa uu koray meeshii hore. markii uu yidhi, allaahu akbar, madiine way gariirtay, dadkiina guryaha ayay ka soo carareen. markii uu yidhina,
ashhadu anna muxammadan rasuulullah dumarkii ayaa guryaha ka soo baxay iyagoo leh ma rasuulkii baa la soo saaray taariikhyahanadu waxay sheegaan inaan weligeed la arag maalin ka oohin badnayd maalintaasi marka laga reebo maalintii nebiga uu dhintay qabiil kasta wuu ooyey indho kastana way ilmeeyeen ugu dambayntii geeridii ayaa u timid bilaal isagoo jooga dimashik xaaskiisa ayaa oyday oo waxay tidhi war murugaa ku haysa laakiin bilaal isagoo faraxsan ayuu yidhi maya farxad ayaa i haysa beri waxaan la kulmayaa kuwii aan jeclaa maxamed iyo asxaabtiis sidaas ayay nafta uga baxday mu'addimkii weynaa wuxuuna dhintay isagoo faqiir ah xagga xoolaha laakiin ah ninka ugu taajirsan xagga taariikhda iyo ajarka bilaal waxa uu ina baray in qiimaha qofka aysan ku xidhnayn midabkiisa qabiilkiisa ama jeebkiisa qiimahaaga waa iimaankaaga bilaal waxa uu doortay allana waxa uu kor u qaaday magaciisa ilaa qiyaamaha taariikhda islaamka waxaa soo maray rag badan oo geesiyaal ah sida khaalid bin waliid zubayr bin cawaam iyo cali ibnu abi daalib laakiin waxaa jira hal nin oo geesinimadiisa ay dhaaftay xadkii caadiga ahaa ilaa ay gaartay heer madaxda islaamka ay ka walwalaan waa ninka marka dagaalka uu galo indhihiisu aanay arki jirin waxaan jannada ahayn waa ninka keliya ee taariikhda islaamka uu khaliifkii mu'miniinta ee cumar ibnu khadaab uu ka qoray wareegto rasmi ah uuna u diray dhammaan taliyayaasha ciidanka isagoo leh iska jira baraa'a binu maalik ha u dhiibina hoggaanka guud ee ciidanka waayo waa nin waalan naftiisa iyo ciidankaba waxa uu ku shubi doonaa geerida si uu u shahiido bal qiyaas nin laga joojinayay xilka sababtoo ah geesinimadiisa ayaa xaddaaf ah waa ninka la sheegay inuu keligiis dilay in ka badan 100 nin dagaalada foolka ah waa ninkii jidhkiisa loo adeegsaday midfaac ahaan oona lagu tuuray cadowga dhexdiisa waana walaalka saxaabiga weyn ee anas binu maalik soo dhowaada saaxiibayaal aniga waxaan ahay abshir casaawe halkanna waa casaawe meydiya maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada baraa'a binu maalik intaana sii gudagelin muuqaalka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe sar janalka haddii aad hore noogu xirnaydna muuqaalka leegdhe oona sii sharigare baraa'a waxa uu ka dhashay qabiilka khasraj ee reer madiina wuxuuna walaal la ahaa anas binu maalik oo ahaa adeegihii gaarka ahaa ee nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laakiin labadan walaal aad ayay u kala duwanaayeen anas waxa uu ahaa nin deggan cilmi badan oo nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee agtiisa aan ka dheeraan baraa'a isaguna waxa uu ahaa nin aamus badan laakiin gudaha ka gubanaya dadka qaar ayaa yasi jiray wuxuuna ahaa nin caata ah lafihiisu ay muuqdaan timihiisana mar walba waxay ahaayeen kuwa isku dhex yaacsan dharkiisana ma ahayn kuwa qaali ah laakiin nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu baray saxaabada in qiimaha ninka uusan ahayn dharkiisa xadiis caan ah oo laga wariyey nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayuu ku tilmaamay baraa'a isagoo leh waxaa jira rag haddii albaabka ay kuu soo garaacaan aadan ka furayn oo timahooda ay isku dhex yaacsan yihiin dhar duug ahna qaba laakiin haddii ay alla wax uga dhaartaan alla wuu u rumeeyaa dhaartooda kadibna nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee farta ayuu ku fiiqay baraa'a binu maalik hadalkii nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ma ahayn oo keliya mid ammaan ah ee waxa uu ahaa hub la siiyey baraa'a saxaabada waxay ogaadeen in baraa'a uu haysto fiise toos ah oo alle xaggiisa ah mar kastoo ay xaaladda xumaato indhaha ayaa isaga lagu soo jeedin jiray baraa'a waxa uu ka qayb galay dagaaladii waaweynaa sida uxud qandaq iyo xunayn dagaal kasta waxa uu raadin jiray hal shay taasi oo ah geeri sharaf leh laakiin alla wuu u diiday geeridaas wakhtiyadaas hore dagaalkii uxud markii muslimiinta la jebiyey baraa'a waxuu ka mid ahaa kooxdii yareed ee diidday inay cararaan wuxuuna isku dhigay warmihii quraysh si uu u difaaco nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nabaradii maalintaas soo gaareenna waxay ahaayeen billadihiisii koowaad mar walba waxa uu dhihi jiray anasow aniga ma rabo inaan sariirta ku dhinto ee waxaan rabaa inaan dhinto anigoo alla dartiis u go'ay laakiin imtixaankiisii ugu weynaa waxa uu imaan doonaa geeridii nebiga kadib
markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu geeriyooday carabtii badankeeda way ridowday waxaana soo baxay ninkii beenta badnaa ee musaylama alkadaab kaasoo haystay ciidan gaaraya 40,000 oo nin oo reer bani xaniifa ah waxayna ahaayeen ciidankii ugu xoogga badnaa ee carabta abubakar al-sadiiq waxa uu diray ciidankii islaamka oo uu hogaaminayo khaalid bin waliid waxaana ciidankaasi ku jiray guutadii ansaarta oo calanka ugu siday thaabit binu qays waxaana dhex socday baraa'a binu maalik dagaalka waxa uu ka dhacay meel la yidhaahdo yamaama bilowgii dagaalka muslimiinta jab xooggan ayaa gaaray ciidankii musaylama aad ayay u dhisnaayeen dhulkana way kala yaqaaneen muslimiintana teennadoodii waa la dumiyey xilligaas adag khaalid bin waliid waxa uu u baahnaa inuu kiciyo niyadda ciidanka wuxuuna u qayliyey baraa'a wuxuuna ku yidhi baraa'a ula hadal ansaarta oo kici ragga baraa'a waxa uu fuulay fariskiisii codkiisu wuu gariirayey wuxuuna ku qaylinayey yaa macshar al ansaar maanta yaanay cidina ka fekerin magaalada madiina maanta madiina ma lihidiin maanta waxaad leedihiin alla iyo janno oo keliya ereyadaasi waxay beddeleen jawigii dagaalka ansaartiina waxay weerar u qaadeen sidii hal nin oo kale iyagoo baraa'a daba socda ilaa ay ciidankii musaylama dib u riixeen musaylama iyo ciidankiisii waxay galeen qalcad weyn oo la odhan jiray xadiiqaturaxmaan markii dambena waxaa loo bixiyey xadiiqatulmowt derbiga beerta wuu dheeraa albaabkana gudaha ayaa laga xidhay muslimiintiina way wareereen warme iyo leeb ayaa derbiga dushiisa looga soo ridayey haddii aan albaabka la furin dagaalku wuu fashilmayaa islaamkana halis ayuu gelayaa baraa'a binu maalik waxa uu eegay derbigii dheeraa wuxuuna arkayey saxaabadii oo la laynayo wuxuuna qaatay go'aan aan aqligal ahayn waxa uu u yeedhay saxaabadii wuxuuna ku yidhi ii keena gaashaanka oo isaara gaashaanka dushiisa kadibna warmaha hoos ka qabta oo kor ii qaada iguna tuura derbiga dushiisa sida dhagaxii si aan gudaha ugu dhaco saxaabadii way diideen waxayna ku dhaheen baraa'ow gudaha waxaa jooga kumanaan nin ee waad isdilaysaa baraa'ana wuxuu ku yidhi waa dhaartii alleh ituura ama waa shahiidaya ama albaabka ayaan idinka furayaa aakhirkii way aqbaleen baraa'a oo dhuubnaa oona ahaa nin fudud ayaa gaashaankii la saaray 10 nin ayaana kor u tuurtay waxa uu hawada sii marayey isagoo seeftiisa haystaa wuxuuna ku duldhacay bartamihii ciidanka cadowga bal qiyaas hal nin oo ku soo dhex dhacay kumanaan cadow ah musaylama ciidankiisii way naxeen iyagoona moodayey in jinni uu soo dhacay baraa'a waxa uu bilaabay inuu laayo ciddii ka hor timaadda wuxuuna u dagaalamayey sidii liwaax dhaawacmay wuxuuna u socday dhanka albaabka wuxuu dilay ninkii albaabka hayey wuxuuna jaray xargihii iyo silsiladihii albaabkii weynaa wuu furmay ciidankii muslimiinta oo khaalid uu hogaaminayo ayaa sidii ku soo galay markii dagaalka uu dhammaaday khaalid waxa uu raadinayey baraa'a waxayna ka heleen meel dhiig badani uu yaallo waxaana jidhkiisa laga tiriyey 80 nabar oo isugu jira seef waran iyo leeb laakiin weli wuu noolaa khaalid bin waliid ayaa bishii xigtay oo dhan teendho u gaar ah ku dawaynayay geesigan sannado badan kadib baraa'a wuu bogsaday wuxuuna hadda joogaa dhulka faris waana dagaalkii tustar magaaladana waxay ahayd mid aad u deggan waxaana ku dhuumaalaysanayey hoggaamiyihii faris oo la odhan jiray hurmusan muddo dheer ayay hareereeyeen farisiyiintu waxay adeegsanayeen xeelado cusub waxayna derbiga ka soo laalaadiyeen silsilado bir ah oo darafka looga xidhay qabatooyin kulul oo dab lagu shiday maalin maalmaha ka mid ah iyadoo dagaalka uu socdo mid ka mid a qabatooyinkii ayaa qabsaday anas binu maalik oo ahaa baraa'a walaalkiis bir kulul ayaa gashay hilibkii anas silsiladdii ayaa kor loogu jiiday si anas derbiga loogu dilo baraa'a markii uu maqlay qaylada walaalkiis wuu soo orday wuxuuna arkay walaalkiis oo hawada sii gelaya wakhti uu seef ku raadiyey ma jirin wakhti uu ku fakarana ma jirin baraa'a kor ayuu u booday wuxuuna labadiisa gacmood ku qabsaday silsiladdii birta ahayd ee gubanaysay gacmihiisa oo qaawan ayuu birtii casayd ku qabtay qiiq ayaana ka baxay calaacashiisa xanuunku waxa uu ahaa mid aan la qiyaasi karin laakiin baraa'a ma sii dayn wuu jiiday wuu dagaalamay ilaa qabatadii uu ka gooyey
xariggii. Anas dhulka ayuu ku soo dhacay. Baraa'a markii uu dhulka eegay, alaacashiisii hilib kuma harin, lafa caddaana ayaa ka soo muuqday, wuxuuna waayey gacmihiisii si uu u badbaadiyey walaalkiis. Ficilkan wuxuu ina tusayaa in Baraa'a uusan ahayn mashiin wax dilo oo keliya, ee uu ahaa nin naxariista iyo jacaylka walaalnimo ay ka buuxdo. Dagaalkii Tustar wuu daba dheeraaday ilaa 18 bilood. Muslimiintii way niyad jabeen, khasaaruhu wuu badnaa, dadkiina waxay xasuusteen hubkoodii qarsoonaa. Koox ka mid ah madaxdii ciidanka ayaa u yimid Baraa'a, waxayna dhaheen, Baraa'ow, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu noo sheegay in haddii aad Alle ku dhaaratid, uu kaa aqbalayo. Xaaladdu way xun tahay, ee Alle noo bari oo ku dhaarso si uu noo guulaysiiyo. Baraa'a waxa uu ogaa inay tani tahay fursaddiisii, wuxuuna dareemay in albaabkii jannada uu u furmay. Gacmihiisii ay nabarada gaareen ayuu kor u taagay, indhihiisii ilmo ayaa ka timid, wuxuuna yidhi, Allahayow, waxaan kugu dhaaranayaa inaad maanta nagu guulaysiisid cadowga dushiisa. Sidoo kale waxa uu dalbaday codsi labaad, wuxuuna yidhi, Allahayow, igu dar nebigaaga Maxamed oo i oofsa maanta. Waxa uu dalbaday 2 shay, midi waa guusha muslimiinta, midna waa shahiidnimadiisa. Alla oo aan celin dhaarta addoonkiisa daacadda ah, labadiiba wuu ka aqbalay. Isla maalintaas, Baraa'a waxa uu galay dagaalkiisii ugu dambeeyey, wuxuuna dilay boqolkii ugu dambeeyey ee cadowga. Ugu dambayntiina seef ayaa ku dhacday, wuuna dhacay, wuxuuna dhintay isagoo dhoola caddaynaya, waayo waxa uu ogaa inuu caawa la cashaynayo nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Dagaalkii waa lagu guulaystay, muslimiintiina way faraxsanaayeen, laakiin hal nin ayaa murugaysnaa, waana Anas bin Maalik, waayo waxa uu waayey walaalkiisii, difaaciisii iyo saaxiibkiis. Anas waxa uu noolaa muddo dheer Baraa'a kadib, wuxuuna mar walba dadka uga sheekayn jiray geesinimada walaalkiis. Wuxuuna dhihi jiray, Baraa'a waxa uu ahaa mid naftiisa u huray Alle dartiis, Allana waxa uu siiyey wixii uu ka raadinayey. Baraa'a bin Maalik ma ahayn oo keliya nin seefqaad ah, ee waxa uu ahaa nin aan dunida iyo wax yaala qiimo la lahayn. Hadafkiisi waxa uu ahaa mid cad, waana inuu jannada galo. Haddii aad si dhaba Alle isugu xirto, Alle waxa uu kuu noqonayaa mid kaa ajiiba wax walbo aad weydiisato. Dadka badankooda Islaamku waxay ku dhashaan iyagoo xor ah, dhulkoodana jooga, laakiin ninkani sheekadiisa way ka duwan tahay cid kasta. Waa wiil u dhashay boqortooyada Faris. Waxa uu ahaa wiil amiir ah oo aabbihiisana uu aad u jeclaa. Waxa uu soo maray diimo kala duwan, waxa uu caabuday dabka, waxa uu u wareegay kiniisadaha Kirishtaanka, waxa uu u safray magaalooyin badan isagoo raadinaya hal shay oo keliya, waana xaqa. Intii uu ku jiray safaradaas, waxaa lagu qiyaameeyey jidka, waxaana laga dhigay addoon la iibsado lana iibiyo. Waxa uu soo maray in ka badan 10 sayid ka hor intuusan helin xorriyaddiisa. Waa ninkii beddelay taariikhda dagaalada Carabta, waa ninkii soo jeediyey fikraddii Khandaq ee badbaadisay muslimiinta. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu yidhi, Salmaan waa mid ka mid ah ahlubeytka. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Salmaan al-Farisi. Intaana muuqaalka sii gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe sar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe oo na sii sheergare. Magaciisa asalka ah waxa uu ahaa Rusbih, wuxuuna ku dhashay magaalada Jey ee hadda loo yaqaan Isfahaan. Aabbihiis waxa uu ahaa madaxa tuulada, wuxuuna ahaa nin aad taajir u ah. Aabbihiis aad ayuu u jeclaa, heer uu gaaray inuu guriga ugu xidho sida gabdhihii oo kale, si aysan dhib u soo gaarin. Diintooda waxay ahayd majuusiyadda. Salmaan aad ayuu ugu daalay diintaasi ilaa uu ka noqday qaadimka dabka. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbihiis ayaa u diray beer ku taalay meel fog. Jidkana waxa uu ku arkay meel kaniisad ah, wuxuuna maqlay codad aad u macaan oo tukanaya. Ciise ayaa galay, wuxuuna galay kaniisaddii, wuxuuna daawanayay cibaadadooda ilaa qoraxda ay ka dhacaysay. Markii uu guriga ku laabtay, aabbihiisi wuu xanaaqay. Salmaanna waxa uu ku yidhi, Aabba, diinta dadkaas ayaa ka fiicanteena. Aabbihiisna isagoo ka baqaya in wiilkiisa uu lumo,
wuxuu ku xidhay silsilad, kadibna wuxuu ku xidhay qolka. Halkan ayay ka bilaabanaysaa halgankiisa. Salmaan waxa uu ahaa wiil raaxo ku nool, laakiin markii uu arkay xaqa, wuu diiday inuu ku jiro mugdigaas, xitaa haddii silsilad lagu xidhay. Salmaan waxa uu fariin u diray kiristaankii, wuxuuna ku yidhi, marka uu yimaado safarka u socda dhulka Shaam, ii soo sheega. Markii safarkii uu yimaadayna, Salmaan silsiladdii ayuu iska jabiyey, si dhuumaalaysi ayuuna u raacay safarkii. Waxa uu gaaray Shaam, wuxuuna dadkii weydiiyey, yaa ugu cilmi badan diintan? Waxaana loo tilmaamay baadari kaniisad weyn joogay. Salmaan waxa uu u tegey ninkii, wuxuuna ku yidhi, waxaan rabaa inaan kuu adeego oon cilmina kaa barto. Baadariga waxa uu ahaa nin xun, dadka ayuu sadaqada ka qaadi jiray, laakiin masaakiinta ma siin jirin, ee isaga ayaa keedsan jiray. Salmaanna wuu nacbaday ninkan. Markii uu baadarigii dhintay, Salmaan waxa uu dadkii u sheegay xaqiiqdiisa, wuxuuna tusay qasnadihii dahabka ahaa ee uu keedsan jiray. Dadkiina waxay meydkiisii ku dileen dhagaxaan. Kadibna waxaa yimid baadari kale oo aad u fiican oo cibaado badan. Salmaanna wuu jeclaaday. Markii uu ninkii dhimanayey, Salmaan waxa uu ku yidhi, yaan u tagaa geeridaada kadib. Ninkiina wuxuu u diray nin jooga Muusal. Salmaan wuu safray, wuxuuna tegey Muusal. Markii ninkii Muusal joogay uu dhimanayeyna, waxa uu u diray nin jooga Nusaybiin. Ninkii Nusaybiin joogayna, markii uu dhimanayey, waxa uu u diray nin joogay Amuuriya. Sidaas ayuu Salmaan ku bixiyey dhallinyaronimadiisii oo dhan, isagoo ka guuraya waddan una guuraya waddan kale si uu u helo cilmi sax ah. Ugu dambayntii, ninkii ugu dambeeyey ee Amuuriya joogay, markii uu dhimanayey, Salmaan waxa uu ku yidhi, xageen aadaa hadda? Ninkii odayga ahaa waxa uu ku yidhi, wiilkaygiiyow, ma garanayo cid kale oo diinta saxda ah haysata, laakiin waxaa soo dhowaaday wakhtigii uu soo bixi lahaa nebigii ugu dambeeyey. Wuxuuna ka soo bixi doonaa dhulka Carabta, wuxuuna u hijroon doonaa dhul geeda timir ah leh oo 2 buurood oo dhagax madow ahna u dhexeeyo. Calaamadaha nebigaasna waxaa ka mid ah, haddii hadiyad la siiyo, wuu cunayaa, haddii sadaqa la siiyana, ma cunayo. Garabkiisana waxaa ku yaalla qaatimun nubuwa. Salmaan waxa uu go'aansaday inuu aado dhulka Carabta si uu u helo nebigaas. Salmaan waxa uu la heshiiyey koox ganacsato Carab ah, wuxuuna siiyey lo'diisii iyo xoolihiisii oo dhan si ay u geeyaan dhulka Carabta, wayna ka oggolaadeen. Laakiin markii ay gaareen meel la yidhaahdo Waadi al-Qura, way qiyaameeyeen. Ninkii xorta ahaa waxay ka dhigeen nin addoon ah, waxayna ka iibiyeen nin Yahuudi ah. Salmaan waxa uu noqday addoon beeraha ka shaqeeya. Muddo kadib, waxaa yimid nin kale oo Yahuudi ah oo reer Bani Qurayda ah, wuxuuna iibsaday Salmaan, wuxuuna geeyey magaalada Yasrib oo hadda loo yaqaano magaalada Madiina. Markii uu Salmaan gaaray magaalada Madiina, wuu gartay, waa dhulkii timirta badnaa lahaa, waa dhulkii 2 buurood u dhexeeyey ee macallinkiisii uu sheegay. Wuxuuna ogaaday inuu gaaray meeshii uu rabay, laakiin weli waa addoon oo ma bixi karin. Maalin maalmaha ka mid ah, Salmaan waxa uu saarnaa geed timir ah dushiisa, wuxuuna maqlay sayidkiisii oo la hadlaya nin kale, kaasoo ku leh, Ilaahay ha naclado reer Aws iyo reer Khasraj. Quba ayay ku urursan yihiin. Nin ayaana u yimid, wuxuu sheeganayaa inuu nebi yahay. Salmaan jirkiisa ayaa gariiray, geedkii ayuuna ka soo booday. Habeenkii markii la gaarayna, timir ayuu qaatay, Quba ayuuna aaday, wuxuuna u galay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Salmaan si uu u ogaado in nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu yahay nebigii xaqa ahaa, 3 imtixaan ayuu ka qaaday. Markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu u galay, wuxuu ku yidhi, waan ogahay inaad tihiin dad musaafur ah, tani waa sadaqo aan idin keenay. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee saxaabadii ayuu ku yidhi, cuna, laakiin isaga gacantiisa ma gelin. Salmaanna waxa uu yidhi, tani waa kow, sadaqa ma cuno. Maalin kale, timir kale ayuu u keenay, wuxuuna ku yidhi, tani ma ahan sadaqo, ee waa hadiyad aan idinku maamuusayo. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuu cunay, saxaabadiina wuu siiyey. Salmaanna waxa uu yidhi, tani waa 2. Maalin kale, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, isaga oo jooga xabaalaha, ayuu gadaal ka maray si uu u arko garabkiisa. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu gartay waxa uu doonayo, isla markiiba go'ay ayuu ka qaaday
dhabarkiisa. Salmaan markii uu arkay qaatimu nubuwaa oo ahay shabadii nebinimada, wuu ku booday, wuu dhunkaday, wuuna ooyey. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa dejiyey. Salmaanna waxa uu nebiga uga sheekeeyey qisadiisii dheereed. Inkastoo uu qaatay diintii Islaamka, haddana weli waxa uu ahaa nin addoon ah, mana uusan awoodin inuu ka qayb galo dagaalkii Badar iyo kii Uxud. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku yidhi, Salmaanow, iska xoree ninkan. Sayidkiisii Yahuudiga ahaa waxa uu ku xiray shuruud adag oo aan macquul ahayn. Wuxuuna yidhi waa inuu bixiyaa 40 waqiyadood oo dahab ah iyo inuu beero 300 oo geed oo timir ah. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa u yeeray saxaabada, wuxuuna ku yidhi, walaalkiin caawiya. Saxaabadii ayaa keenay geedihii. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee laftiisa ayaa gacmihiisii barakaysnaa ku beeray geedaha dhammaantood, marka laga reebo hal geedoo uu beeray Cumar. Dhammaan 300 ee geed way wada baxeen markii laga reebo geedkii Cumar beeray. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa geedkii Cumar soo bixiyey, kadibna dib ayuu u beeray, wuuna baxay. Dahabkiina Alle ayaa u sahlay, sidaas ayuuna Salmaan ku noqday nin xor ah. Sanadkii 5aad ee Hijriyada, Carabta oo dhan ayaa isku soo bahaysatay inay Madiina tirtiraan. 10,000 oo askari ayaa soo socda, muslimiintana waxay ahaayeen 3,000 oo keliya. Madiina dhinac walba buure ayaa ka xiga marka laga reebo dhanka waqooyiga oo furan. Haddii ciidankaasi uu soo galana waa dhammaadkii Islaamka. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu qabtay shir degdeg ah. Saxaabada oo dhan waxay yaqaaneen dagaal foolka fool ah, laakiin Salmaan oo cilmi u lahaa dagaalada boqortooyada Faris ayaa istaagay. Wuxuuna yidhi, yaa Rasuulallah, annaga markii aan joognay dhulka Faris, haddii fardoole ay nagu soo duusho, waxaan qodan jirnay godad naga celiya. Fikraddu waxay ahayd mid cusub oona Carabta weligeed arag. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu ka aqbalay. Asxaabtii oo dhan waxay qodeen godkii. Markii ciidankii ay soo gaareen, asxaabtii waxay arkeen waxaysan filanayn. Fardooleydii way soo gudbi waayeen. Fikraddii Salmaan ayaana badbaadisay caasimaddii Islaamka. Salmaan cimri dheer ayuu noolaa. Wakhtigii Cumar ibnu Khadaab waxaa laga dhigay guddoomiyihii magaalada Madaa'in ee caasimaddii hore ee Faris. Balqiyaas, wiilkii shalay cararayay isagoo qaxooti ah, maanta waxa uu xukumayaa caasimaddii aabbihiis. Markii uu dhimanayay, wuu ooyey. Sacad bin Abi Waqaas ayaa weydiiyey oo waxa uu ku yidhi, maxaa kaa oohinayaa adigoo Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu dhintay, isagoo uu raalli kaa yahay? Salmaan waxa uu yidhi, rasuulku waxa uu nagula dardaarmay in sahaydeena dunida ay noqoto sida sahayda ninka safarka ah oo kale, laakiin fiiri hantida gurigayga taalla. Sacad waxa uu yidhi, waxaan eegay gurigiisa, mana aanan arag weelka biyaha, saxan iyo gogol yar waxaan ahayn. Intaas ayuunu u arkayay hanti badan oo xisaab leh. Salmaan al-Farisi waxa uu ahaa tusaalaha dhabta ah ee qofka xaqa raadinaya. Waxa uu ka tegey raaxada aabbihiis, wuxuuna doortay addoonsi iyo rafaad si uu u helo diinta xaqa ah. Maalin maalmaha ka mid ah, magaalada Madiina waxaa ka dhacday dhacdo aysan indhaha aadanaha horey u arag. Waa maalin murugo, haddana waa maalin mucjiso. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu dhex socday janaasada, wuxuuna ku socday farihiisa caaradood. Saxaabada waxay ku dhaheen, yaa Rasuulallah, maxaad sidan ugu socotaa? Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi, waa cufnaanta malaa'igta. Waxaa soo degay 70,000 oo malag oon weligood dhulka imaan si ay uga qayb galaan janaasada ninkan. Waa ninka markii ay nafta ka baxday uu Jibriil calayhi salaam uu u yimid Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee isagoo ku leh, Maxamedow, waa kuma ninkan dhintay ee uu la ruxmay carshiga Raxmaanka, albaabada samadana loo furay. Ninkani Islaamka dhexdiisa waxa uu ku noolaa 6 sano oo keliya. Balqiyaas 6 sano gudahood ayuu ku gaaray darajo ah in cabsiga Alle uu la ruxmo geeridiisa. oo hogaamiyihii reer Aws waa gaashaankii rasuulka, waana Sacad bin Mucaad. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Sacad bin Mucaad. Intaana muuqaalka sii gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe sar channelka
haddii aad hore noogu xirnaydna muuqaalka leegdhe oo na sii sheelgare ka hor inta uusan islaamku iman madiine waxay ahayd goob dhiigga oo qulqulayo labada qabiil ee ugu waaweyn ee reer aws iyo reer khasraj waxay ku jireen dagaal sokeeye oo socday in ka badan 100 sano dagaalkii ugu dambeeyey waxaa la odhan jiray yoomu bucaas wuxuuna ahaa dagaal lagu hoobtay wakhtigaasi sacad bin mucaad waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah laakiin waxa uu ahaa amiirkii iyo sayidka reer aws sacad waxa uu ahaa nin dheer oo haybad leh marka uu golaha soo galo qof kasta wuu aamusi jiray wuxuuna ahaa nin go'aan adag oon hadalkiisa la soo celin yuhuuddii madiina deganayd mar walba waxay ku goodin jireen oo ay dhihi jireen waxaa soo dhowaaday wakhtigii nebiga waan raaci doonnaa idinkana waan idin ciribtiri doonnaa sacad waxa uu maqli jiray hadalkaas laakiin ma uusan ogayn in nebigaasi uu noqon doono nuurka noloshiisa xusuusnow markii aan ka hadlaynay qisada muscab bin cumayr markii uu madiine yimid waxa uu marti u ahaa ascad bin sudaara sacad wuu xanaaqay markii uu maqlay in maka uu ka yimid nin dadka diin cusub baraya wuxuuna u yeedhay usayd bin xudayr wuxuuna ku yidhi orod oo ninkaas naga celi haddii uusan casad qaraabo ila ahayn waan dili lahaa markii usayd uu soo noqday isagoo muslimay sacad wuu cadhooday warankiisii ayuu qaatay wuxuuna u tegey muscab hadallo kulkulul ayuuna ku dhahay laakiin muscab isagoo xigmad adeegsanaya waxa uu ku yidhi miyaadan fadhiisanayn oo aadna dhegaysanayn sacad wuu fadhiistay muscabna qur-aankii ayuu akhriyey wejigii sacad ee cadhaysnaa waxa uu isku beddelay mid ifaya isla goobtii ayuuna shahaadada ku qabsaday sacad markii uu qaatay islaamka gurigiisi ma aadin ee waxa uu aaday goobtii ay fadhiyeen reerkiisa wuxuuna ku yidhi tolkaygow ninkee baan dhexdiinna ka ahay waxayna ku dhaheen waxaad tahay sayidkeenna kan noogu ra'yiga fiican nooguna sharafta badan sacad waxa uu ku yidhi haddaba raggiinna iyo dumarkiinnaba waan ka xaaraan ahay inaan la hadlo ilaa aad ka rumaysaan alle iyo rasuulkiisa maalintaas qoraxda ma dhicin ilaa guri kasta oo reer bani cabdulashhal ah islaamku wuu galay waana maalintii ugu barakada badnayd taariikhda dacwadda dagaalkii beder nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu watay 313 nin heshiiskii ansaarta uu kula galay caqabana waxa uu ahaa in madiino dhexdeeda ay ku difaacaan laakiin hadda waxa uu joogaa beder nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu rabay inuu ogaado mowqifka ansaarta nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi ila taliya dad yahow abubakar iyo cumar ayaa hadlay oo si fiican u hadlay laakiin nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu eegay dhanka ansaarta sacad bin mucaad ayaa gartay wuuna istaagay wuxuuna jeediyey khudbad dahabi ah wuxuuna yidhi yaa rasuulallah waan ku rumaynay waxaana qarnay in waxa aad la timid ay xaq yihiin ballan ayaana kula galnay noo kaxee meesha aad doonto wallaahi haddii aad baddana la gasho waan kula gelaynaa ninna nagama harayo annagu kuma dhahayno sidii yuhuudda ay ku dhaheen nebi muuse calayhi salaam oo ahayd inay dhaheen adiga iyo rabbigaaga taga oo dagaalama maya annaga waxaan ku leenahay adiga iyo rabbigaaga dagaalama annagana waa idila dagaalamaynaa nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wejigiisii farxad ayaa ka muuqatay wuxuuna yidhi bishaaraysta sannadkii 5aad ee hijriga xilligii dagaalkii qandaq madiine waa la go'doomiyey qabow daran iyo gaajo ayaa jirtay sacad bin mucaad waxa uu xidhnaa cambuur bir ah oo gacmaha ka gaaban nin gaal ah oo xibaan la odhan jiray ayaa leeb ku riday sacad leebku waxa uu ku dhacay xididka weyn ee gacanta dhiig ayaana ka burqaday nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee aad ayuu u naxay sacadna waxaa la dhigay teendo ku taallay masjidka dhexdiisa si nebiga mar walba uu u booqdo dhiiggiisiina wuu istaagi waayey markaas ayuu sacad sameeyey duco cajiib ah wuxuuna eegay samada wuxuuna yidhi allahayow haddii ay wax ka harsan yihiin dagaalkii quraysh inoole waayo ma jiro qoom aan ka jeclahay inaan la dagaalamo kuwii rasuulka dhibaateeyey laakiin haddii dagaalkii naga dhexeeyey uu dhammaaday iiga dhig dhaawacan midaan ku shahiido sidoo kale waxa uu yidhi allahayow ha i dilin ilaa aad indhahayga ku qaboojisid bani qurayda ducadaas qaybteeda dambe waxay ahayd mid la yaab leh bani qurayda waxay ahaayeen xulafadiisii hore
laakiin markii nebiga ay dhabar jebiyeen wakhtigii ugu adkaa, Sacad waxa uu ka doortay Alle iyo rasuulkiisa. Markii axsaabtii ay jabtay, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu amray in loo dhaqaaqo Bani Qurayda. 25 habeen kadib way soo degeen, waxayna dhaheen, waxaan ogolnahay inuuna xukumo Sacad bin Mucaad. Waxayna u malaynayeen inuu u naxariisan doono maadaama ay khulafo hore ahaan jireen. Sacad oo dhaawiciisa uu cuslaaday ayaa dameer lagu qaaday. Markii uu soo dhowaaday, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu yidhi, u istaaga sayidkiinna. Ansaartii way istaageen, wayna soo dejiyeen. Dadkii reer Aws waxay ku lahaayeen, Sacad oo u roonow saaxiibadaada. Sacad wuu aamusnaa. Markii dambe waxa uu yidhi, maanta waxaa la gaaray wakhtigii Sacad uusan Alle dartiis uga baqi lahayn canaanta cidna. Wuu fadhiistay, wuxuuna yidhi, ma igu raacsantihiin xukunkayga? Dhammaantoodna way oggolaadeen. Sacad waxa uu yidhi, waxa aan xukumay in ragga dagaalamay la dilo, dumarka iyo carruurtana maxaabiis laga dhigo, hantidoodana la qaybiyo. Yahuuddii way naxeen. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu yidhi, Allaahu akbar, waxa aad xukuntay xukunkii Alle uu ka soo dejiyey 7 samo dushooda. Xukunkaasi waxa uu ahaa kii soo afjaray fidnadii Yahuudda ee magaalada Madiina. Isla habeenkaasi markii xukunkii la fuliyey, boogtii Sacad ee dhiiggeedii uu joogsaday, dib ayay u dilaacday. Ducadiisii waa la aqbalay, indhihiisiina way qaboobeen. Haddana waxa uu u diyaargaroobay shahiidnimo. Dhiiggiisa ayaa teendhada ka butaacay. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu soo galay teendhadii. Sacad wuu sakaraadayey, nebigana wuu ilmeeyey. Wuxuuna yidhi, Allahayow, Sacad waxa uu ka dhabeeyey ballankii, adiguna ka dhabee ballankaaga. Sacad indhaha ayuu kala qaaday markii uu maqlay codka nebiga, wuxuuna yidhi, salaan korkaaga ha ahaato, yaa rasuulallah, waxaan qirayaa inaad tahay rasuulkii Alle. Daqiiqado kadib, naftii geesiga ayaa baxday. Subaxdii, Jibriil ayaa soo degay, wuxuuna yidhi, yaa Muxamed, waa kuwa meydkan ee albaabka samada loo furay ee uuna la ruxmay carshiga Alle. Carshiga Alle waa makhluuqa ugu weyn ee jira. Kursiga Alle ayaa ka weyn samada iyo dhulka. Carshigana wuxuu ka sii weyn yahay kursiga. Haddana carshigaas weyn ayaa la ruxmay farxaduu u qabo ruuxda Sacad bin Mucaad, waana darajo aan cid kale la siin. Meydkiisa waxaa qaaday malaa'igta. Saxaabadii waxay dhaheen, yaa rasuulallah, maanta meydka Sacad wuu fudud yahay. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu ku yidhi, waxaa idinla qaadayaa malaa'ig aan weligeed soo degin maanta ka hor. Maalin dambe, waxaa nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee loo keenay mare khafiif ah oo aad u jilicsan. Saxaabada ayaa la yaabay jilicsanaanteeda. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu yidhi, ma tan ayaad la yaaban tihiin? Wallaahi mare gacmeedka uu Sacad bin Mucaad uu ku leeyahay jannada ayaa ka jilicsan kana qurux badan tan. Sacad waxa uu dhintay isagoo jira 36 sano ama 37 sano, wuxuuna Muslim ahaa 6 sano oo keliya, laakiin 6daas sano waxa uu qabtay shaqo aysan qaban ummado dhan. Wuxuuna ahaa nin u noolaaday Alle dartiis, una dhintay Alle dartiis. Haddii aad rabto inaad ogaato qiimahaaga Alle agtiis, ha eegin inta sano aad nooshahay, ee waxaad eegtaa waxaad diinta u qabatay. Sacad bin Mucaad waxa uu ina baray in hogaamiyaha dhabtahi uu yahay kan go'aanka qaata marka xaaladdu ay adag tahay. Allaha ka raali noqdo sayidkii ansaarta, saaxiibkii malaa'igta, iyo ninkii carshiga uu la ruxmay. Maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo magaalada Madiina la joogo, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa caday dalbaday. Nin ka mid ah asxaabta ayaa u cararay geedka cadayga si uu caday u soo gooyo. Ninkaasi waxa uu ahaa mid jir ahaan aad u yar, aadna u dhuuban. Markii uu geedka fuulay, dabeel ayaa dhacday, maradiisii ayayna ka qaaday. Waxaana muuqday labadiisii lugood oo aad u dhuudhuubnaa, kuwaasoo u ekaa qoryo yaryar oo kale. Saxaabada qaar markii ay arkeen dhuubnaanta lugihiisa, way ku qosleen. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa weydiiyey, wuxuuna ku yidhi, maxaad ku qoslaysaan? Waxay dhaheen, yaa rasuulallah, waxaan la yaabannahay dhuubnaanta lugihiisa.
markaas ayuu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi hadal taariikhda galay oo qof kasta oo muuqaalkiisa la yasana gaashaan u noqday. Wuxuuna yidhi, waxaan ku dhaaranayaa allah ay naftayda gacantiisa ku jirto, labadaas lugood miisaanka alle agtiisa waxay kaga culus yihiin buurta Uxud. Haddaba waa kuma ninkan lugihiisa ay ka culus yihiin buurta Uxud? Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Cabdullaahi bin Mascuud. Waxaana baran doonaa sida wiil yar oo adhijir ah uu ku noqday macallinkii Quraanka ee ummadda. Cabdullaahi waxa uu ahaa wiil yar oo miskiin ah. Aabbihii waxa uu dhintay isagoo yar, wuxuuna ahaa shaqaale ariga raaca. Wuxuuna u shaqayn jiray mid ka mid a madaxda Quraysh, kaasoo lagu magacaabi jiray Cuqba. Maalin isagoo ariga la jooga, waxa uu yimid laba nin oo haraad iyo daal uu ka muuqday. Waxayna ahaayeen nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo saaxiibkiisa Abuubakar. Xilligaasi dacwadda waxay ahayd mid qarsoodi ah. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku yidhi, wiil yahow, caano mana waraabin kartaa? Ibnu Mascuud oo ahaa nin aamin ah ayaa yidhi, waan awoodaa, laakiin arigan waa mid ammaano ah, ma idin waraabin karo. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku farxay aaminnimadiisa. Kadibna waxa uu ku yidhi, ariga ma ku jirtaa waxar yar aan weli la rimin? Kadibna Cabdullaahi waxa uu u keenay waxar yar aan weli wax caano ah yeelan. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu gacantiisa saaray candhadii waxarta, wuuna u duceeyey. Isla markiiba candhadii way buuxsantay, caano ayaana ka soo burqaday. Ibnu Mascuud wuu yaabay. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu ka cabay, Abuubakarna wuu siiyey, wiilkii yaraana wuu siiyey. Intaasi kadib, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxartii mar kale ayuu u duceeyey, candhadeediina waxay ku laabatay sideedii hore. Ibnu Mascuudna waxa uu ku yidhi, ibar hadalkan aad ku akhriday. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu gacantiisa saaray madaxii Cabdullaahi. Kadibna waxa uu ku yidhi, waxaad tahay wiil la baray cilmiga. Halkaas waxaa ka bilaabmay safarkii cilmiga. Ducadii nebiga ayaana sababtay in Cabdullaahi uu noqdo ninka ugu cilmiga badan saxaabada xagga Quraanka. Muddo kadib, saxaabada oo markaas aad u yaraa ayaa isugu yimid Daarul Akhram. Waxayna dhaheen, wallaahi Quraysh weli ma aysan maqlin Quraanka oo kor loo akhrinayo, yaa u bareeraya inuu maqashiiyo. Rag badan ayaa aamusay cabsi darteed, laakiin Cabdullaahi bin Mascuud ayaa istaagay. Wuxuuna yidhi, aniga ayaa samaynaya. Saxaabadii waxay dhaheen, adiga waan kuu baqaynaa, waxaan rabnaa nin qabiil weyn leh oo hadhow difaaca. Wuxuu yidhi, idaaya, alle ayaa i difaacaye. Waxa uu tegey Kacbada xilli madaxda Quraysh ay fadhiyaan. Wuxuuna istaagay maqaamka Ibraahim. Cod dheer iyo cod macaan ayuu ku bilaabay, isagoona akhriyey Suuraturaxmaan. Quraysh way naxeen, waxayna isweydiiyeen maxay tahay waxa uu ninkan akhrinayo. Markii ay ogaadeen in Quraanka Kariimka uu akhrinayo, way ku soo yaaceen. Waxay bilaabeen inay wejiga ka dharbaaxaan, way garaaceen, dhulka ayayna ku jiideen, dhiig ayaana ka yimid. Laakiin ma uusan joojin akhrinta Quraanka ilaa uu ka gaaray intii Alle uu qadaray. Markii uu ku laabtay saxaabada, wejigiisa wuu bararsanaa, waxayna ku dhaheen, tan ayaan kaaga baqaynay. Wuxuu yidhi, wallaahi cadowga Alle ma arag maalin ay ka liiteen maanta. Haddii aad doontaan, beri ayaan ku celinayaa. Laakiin way ka celiyeen, waxayna ku dhaheen, kugu filan, waad maqashiisay wixii ay necbanaayeen. Mid ka mid a qisooyinka ugu la yaabka badan ee Cabdullaahi bin Mascuud waa habeenkii Laylatul Jinn. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa habeen u baxay si uu la kulmo jinniga oo diinta uu ugu dhigo. Cidinama raacin habeenkaas marka laga reebo Cabdullaahi bin Mascuud. Waxay gaareen meel cidlo ah. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee dhulka ayuu xariiqay. Wuxuuna ku yidhi, Ibnu Mascuudow, fariiso halkan, hana soo dhaafin qadkan ilaa aan kaaga imaado. Ibnu Mascuud waxa uu yidhi, waxaan arkayey madowga jinniga oo soo degaya oo nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ku wareegaya. Codadkooda waxay u ekaayeen guuxa shinnida oo kale. Aad ayaan u baqay, laakiin qadkaygii ma soo dhaafin. Subaxdii, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu u yimid Ibnu Mascuud
wuxuuna u sheegay in jinniga qur-aanku uu aqrinayey ayna qaateen islaamka. ibnu mascuud waxa uu noqday ninka keliya ee goobjoog u ahaa dhacdadaas mucjisada ah. dagaalkii badar markii uu dhammaaday, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi, yaa ii soo eegaya waxa ku dhacay abijahal, waayo haddii aan la ogaan dhimashadiisa waa mid khatar ah. ibnu mascuud oo aad u gaabnaa ayaa aaday goobtii dagaalka, wuxuuna arkay abujahal oo sakaraad ah balse weli kibirkii uu ku jiro. labadii wiil ee ansaarta, mucawid iyo mucaad, ayaa dhaawac culus gaarsiiyey. ibnu mascuud waxa uu fuulay xabadka abujahal, bal qiyaas ninkii shalay alijirka ahaa ee la yasayey ayaa maanta fuushan laabta ninkii ugu kibirka badnaa carabta. abujahal indhaha ayuu kala qaaday, wuxuuna arkay ibnu mascuud, wuxuuna ku yidhi, ma waxaad fuushay meel sare adigoo arijir ah? ibnu mascuud waxa uu yidhi, maanta waa maalintii Alle, maanta Alle wuu ku duleeyey cadowgii Allow. abujahal isagoo sakaraadaya ayaa waxa uu yidhi, guushii raacda maanta. ibnu mascuudna waxa uu yidhi, Alle iyo rasuulkiisa. ibnu mascuud waxa uu la soo baxay seeftiisa, laakiin ma aysan ahayn mid jari karta madaxa abujahal, maxaa yeelay way afbeeshay. laakiin waxa uu qaatay seeftii abujahal, wuxuuna ka gooyey madaxa, wuxuuna u keenay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee isagoo jiidaya madaxii weynaa. nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee markii uu arkay wuu takbiirsaday, wuxuuna yidhi, kani waa fircoonkii ummaddan. ibnu mascuud waxa uu ahaa sida xubin ka mid ah qoyska nebiga. abuu muusa al-ashcari waxa uu yidhi, markii aan madiine imaaday in muddo ah waxaan u malaynayey in ibnu mascuud uu yahay reerka nebiga, waxaana loo yaqaanay ninkii kabaha iyo ninkii hayey sirta rasuulka. haddii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu kaco, ibnu mascuud ayaa kabaha u gelin jiray, haddii uu fadhiistana wuu ka bixin jiray oo gacmaha ayuu ku qabsan jiray. u dhowaanshahan wuxuu dhaxalsiiyey inuu barto 70 suuradood oo toos uga soo baxay abka rasuulka iyadoo aysan cidna u dhaxayn. wuxuuna yidhi, waxaan qaatay 70 suuradood, mana jirto qof igula doodi karta. maalin ayuu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku yidhi ibnu mascuud, ii akhri qur-aanka. ibnu mascuud wuu naxay, wuxuuna yidhi, yaa rasuulallah, ma aniga ayaa kuu akhrinaya adigoo lagugu soo dejiyo qur-aanka? nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi, haa, waxa aan jeclahay inaan ka dhegaysto qof kale. ibnu mascuud waxa uu bilaabay suuratunisaa markii uu gaaray ayadda micnaheeda ay tahay, ka waran marka aan ummad walba aan marag uga keenno, adigana Muxammadow aan marag kaaga dhigno kuwaan. nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku yidhi, hadda jooji, kugu filan. ibnu mascuud markii uu eegay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu arkay labadiisa indhood oo ilmaynaya. markii dambe cumar ibnu khadaab ayaa cabdulaahi ibnu mascuud u diray magaalada kuufa si uu macallin u noqdo. halkaasna waxaa ka abuurmay madrasadii weyneed ee kuufa. cilmiga abuu xaniifa iyo fiqiga xanafiyaduba waxay salka ku hayaan cilmigii cabdulaahi bin mascuud. waa nin keligii dhisay ummad dhan oo culummo ah. wakhtigii khilaafadii cusmaan, ibnu mascuud wuu xanuunsaday, cusmaan ayaana booqday, wuxuuna ku yidhi, maxaad ka sheeganaysaa? ibnu mascuudna waxa uu yidhi, dembiyadayda. cusmaanna waxa uu ku yidhi, maxaad rabtaa oo aan kuu qabtaa? ibnu mascuudna waxa uu ku yidhi, raxmadda rabbigay. cusmaanna waxa uu yidhi, dhaqaatiirba kugu yeedhaa. ibnu mascuudna waxa uu yidhi, wakhtigaygii ayaa dhammaaday. cusmaanna waxa uu ku yidhi, ma kuu qoraa mushaarkaagii aad diidaysay sannado badan si ay gabdhahaaga u helaan? ibnu mascuudna waxa uu yidhi, ma faqiirnimo ayaan uga baqayaa gabdhahayga? waxaan baray inay akhriyaan suuratul waaqica habeen walba, waayo waxaan maqlay rasuulka oo dhahaya, qofkii akhriya suuratul waaqica habeen walba weligiis faqiirnimo ma arkayo. sidaas ayuu ku geeriyooday cabdulaahi bin mascuud, allaha ka raali noqdee. maalintii badar markii dagaalku uu qaboobay, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu arkay jibriil calayhi salaam oo soo degaya. jibriil waxa uu xidhnaa cimaamad midabkeedu uu yahay midabka huruudka ah. nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu eegay malaa'igtii kale ee maalintaas soo degaysay, dhammaantoodna waxay wateen cimaamado huruud ah.
nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu yaabay wuxuuna eegay ciidankiisii wuxuuna arkay hal nin oo keliya kaasoo maalintaas xidhnaa cimaamad huruud ah ninkaasina waxa uu ahaa Zubayr bin Cawaam Jibriil ayaa yidhi yaa Muxamed malaa'igta maanta waxay u soo degtay qaabka Zubayr bin Cawaam bal eeg maqaamkaas in malaa'igtii samada ay isku ekaysiiso nin dhulka jooga waa ninkii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu yidhi nebi walba waxa uu lahaa xawaari aniga xawaarigayguna waa Zubayr waana mid ka mid ah 10 saxaabi ee lagu bishaareeyey jannada iyagoo dhulka jooga soo dhawaada saaxiibayaal aniga waxaan ahay Abshir Casaawe halkanna waa Casaawe Media maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Zubayr bin Cawaam Zubayr waxa uu ahaa wiil aad u yar markii uu islaamayay qiyaastii waxa uu jiray 15 sano ama 16 sano wuxuuna ahaa wiilkii ay dhashay Safiya bint Cabdi Mudallib taasoo ahayd nebiga eedidiis aabihiis Cawaamna waxa uu ahaa walaalka Khadiija bint Quwaylid markii uu islaamay adeerkiis Nawfal bin Quwaylid aad ayuu u carooday wuxuuna Zubayr ku duubi jiray dirin caws laga sameeyey kadibna waxa uu hoosta kaga shidi jiray dabqiiq badan si uu wiilka neefta ugu qabto wuxuuna ku dhihi jiray ka laabo diinta Maxamed Zubayr oo indhihiisu ay biyo ka socdaan qiiqa dartiis laakiin qalbigiisu adag yahay waxa uu dhihi jiray wallahi dib uguma laaban doono gaalnimo maalin maalmaha ka mid ah xilli islaamku cusub yahay Zubayr waxa uu maqlay shaydaan ku dhawaaqaya Maxamed waa la dilay Zubayr ma uusan xanaaqin mana uusan ooyin mana uusan gaban seeftiisii ayuu galka kala baxay wuxuuna soo maray wadooyinka Makka isagoo dadka ku dhex jira ujeedkiisana waxa uu ahaa inuu laayo cidii dishay nebiga ama isaga uu dhinto wuxuuna la kulmay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo nool oo nabad qaba nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu yaabay markii uu arkay wiilkan yar ee seeftiisii galka kala baxay wuxuuna ku yidhi maxaa kugu dhacay Zubayrow Zubayrna waxa uu yidhi waxa aan maqlay in lagu dilay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku yidhi haddii la dili lahaa maxaad samayn lahayd Zubayrna waxa uu yidhi wallaahi waan dagaalami lahaa ilaa aan ka dhinto nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu u duceeyey isaga iyo seeftiisaba taariikhyahanaduna waxay yidhaahdaan taasi waxay ahayd seeftii ugu horeysay ee dar alle loo siibo taariikhda islaamka Zubayr waxa uu hijrooday magaalada Madiina wuxuuna guursaday Asma bintu Abi Bakar taasoo ahayd gabadhii uu dhalay Abubakar al-Sadiiq bilowgii waxay ahaayeen dad aad faqiir u ah Zubayr ma lahayn waxaan ka ahayn faraskiisa iyo geel biyo lagu dhaamiyo Asmana waxay tiri aniga ayaa faraska u cusgoyn jiray biyahana u dhaamin jiray oo gurigana maamuli jiray ilaa aan ka daalo laakiin Zubayr waxa uu ahaa nin ganacsada ah oo barakaysan wuxuuna ka qayb galay dagaal walba wuxuuna helay qaniimooyin wuxuuna yidhi weligii wax ma qiyaamin waxna ma qarin Allah ayaana macaash ka rabay muddo kadib Zubayr waxa uu noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan saxaabada markii uu dhintay hantidiisa waxa lagu qiyaasay 50 milyan oo dirham laakiin hantidaasi qalbigiisa ma gelin ee gacanta ayay ugu jirtay dagaalkii Qandaq xaaladda aad ayay u xumeed yahuudii reer Bani Qurayda ayaa ballantii ka baxday nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu u baahday nin naftii hura ah oo aada dhanka yahuudda si uu war uga keeno nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi yaa warkooda noo keenaya Zubayr ayaa si degdeg ah u yidhi aniga mar labaad ayuu rasuulka ku celiyey Zubayr ayaana yidhi aniga mar saddexaad ayuu ku celiyey isla Zubayr ayaa yidhi aniga markaas ayuu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi hadalkii taariikhiga ahaa wuxuuna yidhi nebi kasta waxa uu lahaa xawaari aniga xawaarigaygu waa Zubayr ereyga xawaari waa darajo ka sareysa saxaabi caadi ah waa mid naftiisa u huray nebiga si gaar ah dagaalkii Yarmuug ee la galay Roomaanka ciidanka muslimiinta waxay ahaayeen 40,000 halka Roomaanka ay ahaayeen 240,000 koox ka mid ah geesiyaasha ayaa u yimid Zubayr waxayna dhaheen Zubayrow miyaadan weerar qaadayn aan kula qaadnee Zubayrna waxa uu ku yidhi haddii aan qaado ima soo raaci kartaan waad baqaysaan ama waad dhimanaysaan waxayna dhaheen maya waan kula qaadaynaa Zubayr waxa uu yidhi Allahu akbar wuxuuna galay
ciidankii Roomaanka dhexdooda sidii leebkii ayuuna u dhex maray safafkoodii, laakiin markii uu gadaal soo eegay cidina ma soo raacin, keligiis ayaana dhex jooga kumanaan cadow ah. Haddaba miyuu soo noqday? Jawaabta waa maya. Safafkii Roomaanka ayuu dhex jeexay ilaa uu dhanka kale uga soo baxay, kadibna dib ayuu ugu soo noqday mar labaad ayuuna dhex jeexay safafkii ilaa uu ku soo laabtay muslimiinta. Jirkiisa waxaa laga tiriyey nabaro badan. Wiilkiisii Curwa waxa uu yidhi, Zubayr garabkiisa waxaa ku yaalay 2 nabar oo waaweyn oon carruurnimadeedii faraha gelin jiray oon ku ciyaari jiray. Nabaradaasina waxay ahaayeen biladihiisii geesinimo. Wakhtigii dambe waxaa dhacday fidnadii weyneed ee u dhaxaysay saxaabada. Zubayr iyo Dalxa waxay la safteen dhanka Caysha, iyagoona dalbanayay in la dilo gacan ku dhiiglayaashii Cusmaan. Dhanka kalena waa Cali bin Abi Taalib. Ka hor inta uusan dagaalku bilaaban, Cali ayaa u yeeray Zubayr, wuxuuna ku yidhi, Zubayrow, ma xasuusataa maalin aad la joogtay nebiga? Wuxuuna ku weydiiyey, ma jeceshahay Cali? Adigana waxaad tidhi, haa, laakiin rasuulku waxa uu ku yidhi, waad la dagaalami doontaa adigoo dulminaya. Zubayr wuu naxay, xasuustii ayaana ku soo dhacday. Wuxuuna yidhi, Ilaah baan ku dhaartaye, haddaan xasuustay, wallaahi kulama dagaalamayo. Zubayr goobtii ayuu ka baxay, wuuna iskaga tegey ciidankii iyo dagaalkii, wuxuuna doortay inuu ka fogaado dhiigga muslimiinta, isagoona fulinaya dardaarankii nebiga. Zubayr isagoo sii socda kana fogaaday dagaalkii, waxa uu gaaray meel la yidhaahdo Waadi Sabca, wuxuuna bilaabay inuu salaad tukado. Nin la odhan jiray Caamir binu Jurmus ayaana soo dabagalay. Ibnu Jurmus wuxuu sugayey ilaa Zubayr uu ka sujuudayo. Markii uu sujuuday, seeftii ayuu qoorta kaga dhuftay. Zubayrna waxa uu dhintay isagoo sujuudsan iyo isagoo ka fogaaday fidnada. Ibnu Jurmus wuxuu qaatay seeftii Zubayr, wuxuuna ula cararay dhanka Cali bin Abi Taalib, isagoona u malaynaya in abaalgud uu helayo maadaama uu dilay cadowgii Cali. Markii uu Cali u tagay, wuxuu ku yidhi, waxaan dilay Zubayr, waana tan seeftiisii. Cali ibn Abi Taalib wuu naxay, seeftii ayuuna qaaday, wuu dhunkaday, wuuna ooyey. Kadibna waxa uu ninkii ku yidhi, u bishaaree naarta ninka dilay ina Safiya, waayo waxaa maqlay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo leh, u bishaaree naarta ninka dili doona Zubayr. Ka hor inta uusan dhiman, Zubayr waxa uu la dardaarmay wiilkiisii Cabdullaahi, wuxuuna ku yidhi, wiilkaygiiyow, deen badan ayaa igu taala. Haddii aad bixin weydo, kaalmo weydiiso mawlahayga. Cabdullaahina waxa uu yidhi, aabe, waa kuma mawlahaagu? Zubayrna waxa uu ku yidhi, waa Alle. Zubayr waxa uu dhintay isagoo ka tegey dhaxal geesinimo, daacadnimo iyo ubad khayr qaba sida Cabdullaahi, Curwa iyo Muscab. Allah ka raali noqdo xawaarigii rasuulka. Maalintii Uxud, markii ay dadka kala carareen, waxaa nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee u haray koox yar oo keliya, waxaana ka mid ahaa nin dhallinyaro ah oo aad shiishahan u ah, wuxuuna qaasada u ridayaa si xawaaro leh. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu wiilkan u dhiibay leebka, wuxuuna lahaa erey uusan weligii qof kale ku odhan taariikhda. Wuxuuna ku yidhi, rid sacadow, aabbahay iyo hooyaday ha ku furteene. Cali bin Abi Taalib waxa uu yidhi, weligii ma maqal rasuulka oo qof kale ku leh aabbahay iyo hooyaday ha ku furteene Sacad bin Abi Waqaas mooyaane. Waa ninka marka uu ducaysanayo saxaabada ay ka baqi jireen inuu habaariyo, waayo ducadiisa waxay ahayd mid toos loo aqbalo. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Sacad bin Abi Waqaas. Sacad waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo 17 jir ah markii uu islaamayey, wuxuuna ka dhashay qabiilka Bani Zuhra. qabiilkaas oo ah qabiilkii ay ka soo jeeday hooyadii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee Aamina. sidaas darteed rasuulka waxa uu ugu yeeri jiray adeerkay. hooyadiis Xamna bintu Sufyaan waxay ahayd haweeney adag oo Sacad uu aad u jeclaa una baadhi sameeyo. markii ay maqashay inuu islaamay, way waalatay, waxayna tiri, Sacadow, ma cuni doono cunto, mana cabi doono biyo, mana harsan doono ilaa aan ka dhinto ama aad ka laabato diintan aad haysato.
markaasna dadku waxay kugu yeeri doonaan dilihii hooyadiis. Maalmo ayay soomanayd, wayna suuxday. Dadkii ayaana afka u kala qabanayay si ay biyo ugu shubaan. Sacad aad ayuu u xanuunsaday, laakiin diinta Alle gorgortan ma gasho. Ugu dambayntii wuxuu hor istaagay hooyadiis, wuxuuna ku yidhi hadal jacayl iyo go'aan adag xambaarsan. Wuxuuna yidhi, hooyo, wallaahi waan ku jeclahay, laakiin haddii aad yeelan lahayd 100 nafood oo mid ay u baxayaan, diinta uguma tegi doono ayaga dartood. Hooyo, haddaad doonto cun, haddaad doontana iska daa. Markii ay aragtay go'aankiisii, cunnadii ayay cuntay. Allana waxa uu soo dejiyey aayadda dhahaysa, haddii ay isku dayaan inay kugu qasbaan inaad ii shariig yeesho, ha caddeecin, laakiin si wanaagsan ula dhaqan. Sacad wuxuu caan ku ahaa inuu yahay shiishyahan. Waa ninkii ugu horeeyey ee dhiig gaal ah ku daadsha sibilka Alle. waana ninkii ugu horeeyey ee qaanso u rida dar Alle. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, markii uu arkay hibooyinkiisa, waxa uu u sameeyey duco cajiib ah. Wuxuuna yidhi, Allahayow toosi shiishkiisa oo aqbal ducadiisa. Saxaabadu waxay dhihi jireen, waxaan ka baqi jirnay inaan ka hor imaanno Sacad, waayo ninkii uu habaaro wuu baaba'ayaa. Waqti dambe nin ayaa caayay Cali bin Abi Daalib. Sacad ayaana ku yidhi, war naga daa ninkan aad caayayso. Ninkiina wuu diiday. Sacad ayaa yidhi, haddaba waan ku habaarayaa. Isla goobtii geel cadhaysan ayaa soo baxay, ninkii ayuuna ku tuntay ilaa uu ka dhintay. Dadkiina waxay dhaheen, bishaaraysa Abu Isxaaqow, ducadaadii waa la aqbalay. Hijradii kadib, Sacad waxa uu ahaa waardiyaha gaarka ah ee Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Habeen ayuuna rasuulka soo jeeday, wuxuuna yidhi, haddii aan heli lahaa nin saalix ah oo i waardiyeeya. Isla markiiba codka hubka isku dhacaya ayaa la maqlay. Rasuulkana waxa uu yidhi, waa kuma? Sacadna waxa uu yidhi, waa Sacad bin Abi Waqaas. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku yidhi, maxaa ku keenay? Sacadna wuxuu ku yidhi, waxaan u baqay naftaada, markaasaan u yimid si aan kuu ilaaliyo. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu u duceeyey, uuna seexday. Sacad waxa uu wiilashiis ku dhihi jiray, wiilashaydow, xasuusta Badar, aniga iyo walaalkay Cumayr waan wada joognay. Wuxuuna aad u jeclaa in carruurtiisa uu baro taariikhda dagaalada sidii uu u barayey suuradaha Quraanka. Waqtigii Cumar bin Khadaab waxaa la go'aansaday in la soo afjaro boqortooyadii Faris. Cumarna waxa uu rabay inuu isagoo hogaamiyey ciidanka, laakiin Cali iyo Cabdiraxmaan bin Cawf ayaa kula taliyey inuu diro nin kale. Cabdiraxmaan wuxuu yidhi, waxaan hayaa libaax ciddihiisa qarsaday. Cumarna waxa uu ku yidhi, waa kuma? Cabdiraxmaanna waxa uu yidhi, waa Sacad bin Abi Waqaas. Sacad waxa uu watay 30,000 oo ciidan, waxaana ka hor yimid Rustam oo ahaa taliyihii Faris, kaasoo wataa 120,000 oo askari iyo 33 maroodi oo dagaalka loo tababaray. Laakiin imtixaan ayaa dhacay. Sacad waxaa ku dhacay xanuun kaasoo jirkiisa oo dhan nabaro ku beeray, mana uusan awoodin inuu fadhiisto ama faras uu fuulo. Wuxuuna amray in jooradii loo dhigo meel sare, halkaas ayuuna ciidanka ka hagayey isagoo jiifa. Dadka qaar oo ah dadka xanta jecel waxay dhaheen, Sacad uu dhuumanaya. Sacad markii uu maqlay wuu ooyey, wuxuuna yidhi, Allahayow, adiga ayaa og inaan maanta faras fuuli karin. Maalintii koowaad ee dagaalka, maroodiyaashii Faris ayaa burburiyey safafkii muslimiinta. Maalintii labaad ee dagaalka, muslimiinta waxaa u yimid gurmad, waxayna indhaha ka rideen maroodiyaashii. Habeenkii qaylada waa habeenkii ugu darnaa. Seefaha ayaa shaqaysanayay ilaa waaguu ka bariyey. Sacad habeenkaas ma seexan, takbiirta iyo amarka ayuu kor ka bixinayay. Subaxdii dambe, Rustam waa la dilay, boqortooyadii Farisna way jabtay. Sacadna waxa uu Madiino u diray bishaaradii guusha. Kadib guushii, Sacad waxa uu eryaday haraadigii ciidankii Faris ilaa uu ka gaaray caasimadooda Madaa'in. Laakiin waxaa ka horeeyey webiga Dajla oo aad u kacsan, buundooyinkana waa la gooyey. Sacad waxa uu riyo ku arkay isagoo fardaha badda gelinaya. Subaxdiina wuxuu khudbad u jeediyey ciidankii, wuxuuna yidhi, cadowgu waxa uu idinka galay webigan, Allana wuu idin sahli doonaa si aad uga gudubtaan sida dhulkaad u maraysaan oo kale. Mucjiso ayaa dhacday. Salmaan al-Farisi oo garab socday Sacad
ayaa yidhi, walaahi sida dhulka bannaan oo kale ayay ugu socdaan biyaha dushooda. Ciidankii waxay jiireen webigii iyagoo fardaha saaran biyahana dul maraya. Farisiyiintii markay arkeen way qayliyeen, waxayna dhaheen waa jinniyo, kadibna way carareen. Sacad waxa uu galay qasriga cad ee Kasra, wuxuuna akhriyey aayadda dhahaysa badanaa intay ka tageen beere iyo ilabiyoodyo. Sacad waxa uu noqday hogaamiyaha Kuufa, wuxuuna dhisay magaalada Kuufa. Laakiin markii dambe Cumar ayaa casilay cabasho dadweyne awgeed, inkastoo Sacad uu beri ka ahaa. Waqtigii fidnada ee Cali iyo Mucaawiya, Sacad wuu ka fogaaday. Wiilkiisii Cumar binu Sacad ayaa u yimid, wuxuuna ku yidhi, aabba dadkii xil ayay ku dagaalamayaan, adigana halkan ayaad geel la joogtaa, adiga ayaana dadka uga xaqle xilka. Sacad wuxuu laabta ka riixay wiilkiisa, wuxuuna ku yidhi, ka tag, waxaan maqlay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo leh, alle waxa uu jecel yahay qofka alle ka cabsada ee qaniga ah ee qarsoon. Sacadna waxa uu doortay inuu qarsoonaado. Sanadkii 55 hijriga, Sacad waxa uu saarnaa sariirta geerida, waana saxaabigii ugu dambeeyey ee muhaajiriinta ee dhinta. Wuxuu u yeeray wiilkiisa, wuxuuna ku yidhi, fur sanduuqaas. Sanduuqana waxa ku jiray qamiis dhogor ah oo aad u duugoobay. Sacad waxa uu yidhi, qamiiskan igu kafana waa qamiiskii aan xirnaa maalintii Badar markaan la dagaalamayay mushrikiinta, waxaana u qarsaday maalintan si aan alla ula hortago. Madaxiisa waxa uu saaray dhabta wiilkiisa Muscab, wuxuuna yidhi, ha ooyin wiilkaygiiyow, alla i cadaabi maayo weligay, waxaan ahay ahlu janna. Kalsooni uu ku qabo bishaarada nebiga. Waa dhammaadkii libaaxii Qadisiya, ninkii furay Ciraaq iyo Iiraan. Allaha ka raali noqdo Sacad bin Abi Waqaas. Maalin maalmaha ka mid ah, amiirka muuminiinta ee Cumar bin Khadaab ayaa qaabilay wafdi ka socday magaalada Ximis. Magaaladan waxaa loo yaqaanay Kuufadii yareed, sababtoo ah dadkeeda aad bay u dacwo badnaayeen, madaxdana uma dulqaadan jirin. Cumar ayaa ku yidhi wafdigii, ii qora liiska dadka masaakiinta ah ee magaaladiina jooga si aan wax ugu diro. Wafdigii waxay qoreen liis dheer. Cumar markii uu liiskii akhriyey wuu naxay, wuxuuna arkay magaca ugu horeeya ee liiska masaakiinta ku qoran inuu yahay Saciid binu Caamir. Cumar ayaa wafdigii weydiiyey, wuxuuna ku yidhi, waa kuma Saciidkan? Waxayna dhaheen, waa guddoomiyahayaga. Cumarna waxa uu ku yidhi, amiirkiina ma masaakiinta ayuu ka mid yahay? Waxayna dhaheen, haa, walaahi maalmo ayaa soo mara uusan gurigiisa dab laga shidin. Cumar binu Khadaab garkiisa ayuu gooyey oohin darteed. Waa guddoomiye haysta qasnadii dowladda, haddana gaajo la ildaran. Haddaba waa kuma ninkan la yaabka leh? Maxaase ku kalifay nolol noocan ah? Bal aan dib u eegno taariikhdiisa. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Saciid binu Caamir. Qisada Saciid waxay ka bilaabanaysaa maalin madow oo soo martay magaalada Makka, waana maalintii Quraysh ay tiirka ku xirtay saxaabiga weyn ee Qubayb si ay u dilaan. Saciid xilligaasi ma ahayn Muslim, waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro daawanaysay siday wax u dhacayaan. Wuxuuna arkay Qubayb oo si degan u tukanaya 2 ragcadood, wuxuuna maqlay Qubayb oo habaaraya Qurayshta isagoona leh, allahayow mid u tiri oo lay, midna ha ka reebin. Marka warankii lagu dhuftay ee hilibkiisa la jarjaray, Abu Sufyaan ayaa weydiiyey Qubayb, wuxuuna ku yidhi, ma jeceshahay in Maxamed booskaaga uu joogo, adigana aad nabad ku joogto gurigaaga? Jawaabtii Qubayb waxay ahayd mid Saciid qalbigiisa gubtay. Qubaybna waxa uu yidhi, wallaahi ma jecli in gurigayga aan nabad ku joogo, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo xitaa qodxi ay muddo. Saciid waxa uu arkayey markii Qubayb ay nafta ka baxaysay, isagoo dhoola cadaynaya, muuqaalkaasna weligiis kama go'in. Habeen walba wuu ku riyoon jiray, waana sababta keentay inuu islaamo kana soo cararo magaalada Makka. Waqtigii Cumar bin Khadaab, Saciid waxa uu ahaa nin suuqa isaga socda oo adduunka saahid ka ah. Cumar bin Khadaabna waxa uu ogaa in ragga noocana ay yihiin kuwa keliya ee ummadda lagu aamini karo.
cumar wuxuu u yeeray siciid wuxuuna ku yidhi siciidow waxaan kaa dhigayaa guddoomiyaha ximis siciidna waxauu yidhi cumarow alla dartiis ha i fidnaynin cumar waxauu yidhi dhibka dusha ayaad iga saarteen oo khilaafada ayaad ii dhiibteen markaas baad cidlo igaga cararaysaan wallaahi inaanan ku dhaafayn siciid wuu aqbalay laakiin shuruud ayuu ku xidhay wuxuuna yidhi ha isiin wax mushaar ah waayo waxa aan ka qaato baytulmaalka waxaan u arkaa dab aan caloosha gashanayo wuxuuna u safray magaalada ximis isagoo wata hal dhar bakoorad iyo weel biyo ah dadkii ximis waxay filanayeen guddoomiye wata fardo iyo ilaalo laakiin waxay arkeen nin u eg darwiish muddo kadib cumar ayaa booqasho ku tegey magaalada ximis wuxuuna isugu yeeray dadkii wuxuuna ku yidhi maxaad ku haysataan amiirkiinna waxay soo bandhigeen 4 dacwadood oo aad u culus siciidna wuu aamusnaa isagoo madaxa hoos u haya dacwaddii koowaad waxay dhaheen bannaanka nooguma soo baxo ilaa ay wakhti dambe noqoto cumar waxa uu eegay siciid wuxuuna ku yidhi ka jawaab siciidow siciid waxa uu yidhi wallaahi waan dhibsanayaa inaan sheego laakiin maadaama la igu qabsaday aniga ma lihi qof shaqaale ah subaxdii marka aan soo kaco cajiinka ayaan qasaa waxaana sugaa ilaa uu ka qamiiro kadibna waxaan dubaa rootiga kadib ayaan qubaystaa oon u soo baxaa dadka dacwaddii labaadna waxay ahayd habeenkii ciddii u timaada kama jawaabo oo albaabka ma furo siciid waxa uu yidhi maalintii waxaan u hibeeyey dadka oo bulshada ayaan u adeegaa habeenkiina waxaan u hibeeyey alla subxaanahu wa tacaala oo salaatuleyl ayaan tugtaa sidaas darteed dadka uma soo bixi karo habeenkii dacwaddii saddexaadna waxay ahayd bishii hal maalin dadka ma arkaan gebi ahaanba siciidna waxa uu yidhi amiirkii mu'miniintow ma lihi dhar aan ka ahayn kanaan hadda xidhanahay bishii mar ayaan dhaqaa waxaana sugaa ilaa uu ka qalalo markaas ayaana soo baxaa casirka dabadiis cumar wuu ilmeeyey markii uu maqlay in guddoomiyihiisa uusan lahayn dhar uu ku beddesho dacwaddii afraadna waxay ahayd mararka qaar isagoo fadhiya ayuu miir daboolmaa oo uu maqnaadaa cumar binu khadaab waxa uu ku yidhi maxaa kugu dhaca siciidow siciid waxa uu yidhi markii aan xasuusto maalintii qubayb la dilayey anigoo mushrik ah oonan u gargaarin waxa aan isdhahaa alla kuuma dhaafiyey dembigaas oo ah inaadan u gargaarin markaas ayaana cabsida alla darteed miirka uu igaga tagaa cumar binu khadaab ayaa kor u qayliyey wuxuuna yidhi alxamdulilaah alla ayaana i hoojin saadaashaydii aan ninkan ka qabay dacwaddiina halkaas ayay ku dhammaatay siciidna waxa uu noqday mid la wada jecel yahay cumar binu khadaab markii uu madiine ku laabtay waxa uu siciid u soo diray 1,000 diinaar oo dahab ah si uu u kaalmaysto noloshiisa markii siciid uu furay kiishkii uuna arkay dahabkii dib ayuu u booday isagoo leh innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun sidii qof masiibo ku dhacday oo kale xaaskiisa ayaa soo carartay waxayna ku tiri maxaa dhacay ma amiirkii mu'miniinta ee cumar ayaa dhintay siciidna waxa uu ku yidhi maya wax ka weyn baa dhacay adduunye ayaa guriga soo gashay si aakhiradeenna u burburiso xaaskiisa oo iyaduna saalixad ahayd waxay ku tiri iska saar haddaba siciid waxa uu qaatay dahabkii wuxuuna u qaybiyey masaakiintii magaalada ilaa uu ka dhameeyey iyadoo reerkiisana aysan habeenkaas wax cunno ah karsan sanadkii 20aad ee hijriyada siciid binu caamir waxa uu ku geeriyooday magaalada ximis markii hantidiisa la eegay lama helin waxaan ka ahayn bakoorad weelka biyaha iyo saxan waxa uu xukumayey gobol dhan oo qani ah laakiin wuxuu ka tegey adduunka isagoo gacmo maran balse qalbi buuxa taariikhyahanadu waxay yidhaahdaan haddii aad rabto inaad aragto nin dhulka ku socda laakiin u dhaqmaya sida qof jannada jooga oo kale eeg siciid binu caamir maanta adduunku waxa uu u baahan yahay madax leh rubuc ka mid ah damiirka siciid waa cashar ku socda mas-uul kasta xilka ma ahan fursad hanti lagu urursado ee waa imtixaan adag oo aakhire lagula xisaabtamayo allaha ka raali noqdo siciid binu caamir xilligii jaahiliyada carabtu waxay dhihi jireen ragga carabta ugu aqliga ee dhagarta badan waa 4 waa mucaawiya bin abi sufyaan ziyaad binu abiih muqiira bin shucba
iyo Camar binu Caas. Laakiin afartooda waxa ugu sii aqli badnaa uguna xeelad badnaa Camar. Waa nin gaaban oo indho waaweyn, hadalkiisana uu sixir yahay. Waa diblomaasi awood u leh inuu dhagaxa uu ka dhaadhiciyo inuu biyo noqdo. Waa ninkii Quraysh ay u dirtay boqortooyadii Xabashida si uu u soo gacan geliyo muslimiintii qaxootiga ahayd. Waa ninka Cumar binu Khadaab marka uu arko qof caqli xumo samaynaya uu dhihi jiray, subxaanallah, allaha abuuray ninkan iyo Camar binu Caas waa hal alle. Maanta waxaynu baran doonnaa sida ninkii ugu khatarta badnaa ee islaamka la dagaalama uu u noqday ninkii hadiyad ahaan u siiyey islaamka qaarad dhan. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Camar binu Caas. Xilligii Makka, markii muslimiinta ay u soo hijroodeen dhulka Xabashida, Quraysh way walwashay, waxayna dooratay ninkeeda ugu hadalka macaan ee Camar binu Caas si ay Najaashi uga soo celiyaan muslimiinta. Camar waxa uu qaatay hadiyado qaali ah, wuxuuna laaluushay wasiiradii Najaashi ka hor inta uusan boqorka la kulmin. Markii uu Najaashi hor yimidna, waxa uu ku yidhi, boqorow, waxaa dhulkaaga soo galay dhallinyaro doqomo ah, diintii aabbayaashoodu way ka tageen, taadana ma aysan qaadan, waxaana kaa codsanayaa inaad noo soo celiso. Qorshaha Camar waxa uu ahaa mid hagaagsan, laakiin Najaashi waxa uu ahaa boqor cadaalad badan, wuxuuna u yeeray muslimiinta. Jacfar binu Abi Daalib ayaa hadlay, wuxuuna akhriyey suuratul Maryam. Camar markii uu arkay in Najaashi uu jilcay, waxa uu isticmaalay kaartadiisii ugu dambaysay, wuxuuna yidhi, boqorow, waad og tahay inaysan Ciise u aqoonsanayn inuu Alle yahay, ay u aqoonsan yihiin inuu yahay addoon uun. Taasi waxay ahayd dabin khatar ah, laakiin Jacfar si geesinimo leh ayuu ugu jawaabay. Najaashina waxa uu qaaday qori dhulka yaalay, wuxuuna yidhi, Ciise intaas kamuusan duwanayn waxa aad sheegteen. Camar maalintaas wuu jabay, wuxuuna soo laabtay isagoo fashilmay, waana fashilka keliya ee noloshiisa soo maray. Sannadkii 8aad ee hijriyada, Camar waxa uu dareemay in islaamku uu guulaysanayo, caqligiisa ayaana u sheegay inuusan sii socon karin dagaalkan, wuxuuna u baxay dhanka Madiina. Jidka waxa uu kula kulmay Khaalid bin Waliid, wuxuuna ku yidhi, xageed u socotaa Abu Sulaymaanow? Khaalidna waxa uu ku yidhi, wallaahi waddadii way caddaatay, waxaana u socdaa inaan soo muslimo. Camarna waxa uu ku yidhi, aniguna saas oo kale. Markay u galeen nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, Camar wuu ooyey, wuxuuna diiday in gacanta nebiga uu qabsado. Nebigana waxa uu ku yidhi, maxaa jira Camarow? Camarna waxa uu yidhi, yaa rasuulallah, shuruud baan wataa. Shuruuddaasina waxay tahay in Allah uu ii dhaafo dembiyadeedii hore. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu dhoola caddeeyey, wuxuuna yidhi, miyaadan ogeyn Camarow in islaamka uu tirtiro wixii ka horeeyey? Maalintaas islaamku waxa uu helay laba garab, Khaalid bin Waliid oo ah seeftii, iyo Camar oo ah aqligii. Waxyar kadib, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu Camar ka dhigay taliyaha ciidan loo diray Daatu Salaasil. Ciidanka waxaa ku jiray rag waaweyn sida Abubakar iyo Cumar, laakiin Camar ayaa la amray. Camar waxa uu soo rogay go'aamo la yaab leh oo ciidanka ay dhibsadeen. Go'aanka koowaad waxa uu ahaa inaan dab la shidi karin. Habeenkii aad buu u qaboobaa, ragguna way dhexmoonayeen, laakiin Camar waxa uu diiday in dab la shido. Cumar binu Khadaab wuu carooday, laakiin Abubakar ayaa dejiyey. Go'aanka labaadna waxa uu ahaa in cadowga aan la eryan karin. Markii cadowgii ay jabeen, wuu diiday in la eryado. Markii Madiina lagu laabtay, saxaabada ayaa u dacwooday nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Nebigana waxa uu weydiiyey Camar sababta uu u sameeyey sidaas. Camar waxa uu yidhi, yaa rasuulallah, dabka waxaan u diiday in cadowga uu ogaado tiradeenna oo ay nagu soo dhiiradaan, sababtoo ah waxaan ahayn kuwa yar. Eryashadana waxaan u diiday inaanan aqoon dhulka oo dabinna la geliyo. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee aad buu ula dhacay xigmadda militariga Camar, wuuna u duceeyey. Wakhtigii khilaafadii Cumar, Camar binu Caas waxa uu ahaa hogaamiyaha ciidamada Falastiin, wuxuuna hareereeyey Qudus. Baadarigii magaaladana waxa uu ku yidhi, magaalada ninka furi doonaa sifooyinkiisa waan haynaa, adigana ma tihid. Camar waxa uu gartay in sifooyinkaasi ay yihiin kuwii Cumar binu Khadaab. Warqad degdega ayuuna u diray Cumar, wuxuuna yidhi, haddii aad rabto
in Qudus dhiig-la'aan la furo soo gaar. Cumarna wuu yimid, Qudusna waxaa lagu furay gacantiisa, laakiin maskaxdii ka dambaysa waxay ahayd tii Camar. Hadda waxaa bilaabanaysaa dhacdadii ugu weyneed. Camar waxa uu Cumar weydiistay oggolaansho ah inuu Masar aado, laakiin Cumar wuu ka wareegtay sababtoo ah Masar waa waddan weyn, ciidanka muslimiintana waxay ahaayeen kuwo yar. Ugu dambayntii, Cumar waxa uu siiyey 4,000 oo askari, laakiin warqad ayuu ka soo dabadiray. Warqaddaasina waxay lahayd, haddii warqaddani ay ku soo gaarto adigoo aan Masar gelin, soo laabo, haddii aad gashayna soco, Alle ayaa kula jira. Camar isagoo isticmaalaya aqligiisa waxa uu ogaa waxa warqadda ku qoran, maba uusan furin warqadda ilaa xuduudka Masar uu ka gudbay. Kadib ayuu furay warqaddii, wuxuuna yidhi, waana tan, dhulkii Masar baan joognaa, amarka amiirkana waa fulinaynaa. Camar waxa uu wajahay qalcadda Baabilyoon. Hoggaamiyihii Masar ee Almuqawqis ayaa la yaabay carabtan. Camar wuxuu u diray Ubaada bin Saamit oo ahaa nin madow ah oo dheer, Muqawqisna uu ka naxay midabka Ubaada. Ubaadana waxa uu yidhi, ciidankayaga midka madow iyo midka cad way noo siman yihiin. Ereyadaas iyo cadaaladda muslimiinta ayaa sababtay in shacabka Masar ay soo dhoweeyaan muslimiinta kana hiiliyaan Roomaanka oo dulmin jiray. Sidaas ayuuna Camar ku noqday ninkii furtay magaalada Masar, wuxuuna dhisay magaalada Fustaad iyo masjidka caanka ah ee Jaamac Camar bin Caas oo ilaa iyo maanta taagan. Markii daacuunkii weynaa ee Camwaas uu Shaam ka dilaacay, kumanaan saxaaba ayaa ku dhintay oo ay ku jiraan Abu Cubayda iyo Mucaad. Camar bin Caas ayaana hoggaanka qabtay, wuxuuna adeegsaday caqligiisa, wuxuuna yidhi, dad yahow, daacuunka waa sida dabka oo kale, idinkuna waxaad tihiin xaabadii, haddii aad isku dhiggan tihiin wuu idin gubayaa, ee kala taga oo buuraha kala gala. Waa markii ugu horraysay taariikhda ee la sameeyo karantiil iyo kala fogaansho habaysan. Ciidankii buuraha ayay galeen, dadkiina way kala fogaadeen, daacuunkiina meeluu ku faafa ayuu waayey, wuuna damay. Caqligii Camar ayaa badbaadiyey intii ka hartay ciidanka Islaamka. Sanadkii 43 ee Hijriyada, Camar bin Caas waxa uu saarnaa sariirta geerida, wuxuuna ahaa guddoomiyaha Masar, laakiin aad buu u ooyey, wejigiisana derbiga ayuu u jeediyey. Wiilkiisii Cabdullaahi ayaa ku yidhi, Aabe, miyuusan nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee kuu bishaarayn? Camar wuu soo jeestay, wuxuuna yidhi, wiilkaygiiyow, noloshayda 3 marxaladood ayay soo martay. Mar waxaan necbaa nebiga, haddii aan heli lahaa waan dili lahaa, haddii aan markaas dhiman lahaana naarta ayaan geli lahaa. Marna waa muslimay, nebigana cid iga jecel ma jirin, haddii aan markaas dhiman lahaana jannada ayaan rajayn lahaa. Kadibna waxaan galay arrimo iyo siyaasad, sida fidnadii Cali iyo Mucaawiya, mana garanaya xaalkayga sida uu noqon doono. Camar bin Caas waxa uu ahaa nin aan caadi ahayn, wuxuuna ina baray in caqliga iyo cilmiga loo adeegsan karo in diinta lagu hormariyo. Maanta haddii aad maqasho aadaan laga eedaamayo Qaahira, Suudaan ama Liibiya, ajarkeeda waxaa iska leh Camar bin Caas. Allah ka raali noqdo Camar bin Caas. Fadlan daawade, haddii aad ka heshay qisadan quruxda badan, fikirkaaga ku aadan qisadan noogu reeb qaybta kommentiga. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna, nagu soo biir oo subscribe sar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe oo na sii shargare si ay u gaaraan saaxiibo badan oo adigoo kala ah oo qisooyinka jecel. Sidoo kale haddii aad jeceshahay qisooyinka nebiyada, waxaan kuu diyaariyey dhammaan qisooyinka 25 nebi ee Quraanka lagu sheegay, waxaadna ka helaysaa channelka. Sidoo kale waxay kugu diyaarsan yihiin playlist gaar ah, halkaas ayaadna ka daawan kartaa.